waxay noo soo gudbiyeen qoraal ay soo qoreen oo dheer bay noo soo gudbiyeen runtii aniga waxaan is lahaa buugu maadaama qoran yahay waxay dhihi doonaan dhakhaatiirtu halkaa iyo waxa laga bedelo laakiin sharci weyn oo la mid ah sharcigan bay soo qoreen oo keeneen anaga ka guddi ahaan sharciga waan akhrinay waana fiirinay runtii buugina dib baan u saxnay oo u fiirinay laakiin wax aan ka bedelnay ma jiraan ilaa hadda buugi waxaan u bedeli weynay haddii naloo soo qaado Pacific Place oo meel la dhaho waxaas la sameeyo waan ka doodi lahayn laakiin totally sharcigii haddii maaragtay sharci kale oo maaragtay la mid ah hadduu imaado waxay noqonaysaa markaas inaan dib u laabano oo dhakhaatiirta dib oola tashanno wasaaradda caafimaadka dib aan oola tashanno kulligeen aan ka wada doodno marka arrintaas ayaan maanta rabaa insha allahu tacaala in fikirkeeda iyadoo saliima aan ka wada doodno oo qoladii dhakhaatiirtana way joogaan wasaaradda ka socday qoladii kale dhakhaatiirteena ee dhakhaatiirta gudaha way joogaan annagu ka urur ahaan runtii markay tahay wax fiican inuu soo baxaan rabnaa sharci fiican inuu noo soo baxaan rabnaa wax qola aan garab siinayna annagu ma jiraan runtii laakiin waxaan doonaynaa maadaama baarlamaankii aan nahay maadaama sharci dejiyaashii aan nahay waxaan doonaynaa wax fiican oo hadda baarlamaanka markaan geyno soconaya inuu imaado annagu nalagu dhegan yahay oo nala haysta inaan tagnana marka insha allahu tacaala waxaan doonaynaa in aan maaragtay aan iska qancinno qof walba konsaynka uu qabo maadaama guddoomiyihii baarlamaanka nala joogo baarlamaanka ay fadhiyaan dhakhaatiirtina ay fadhiyaan wasaaradda caafimaadka dhakhaatiirta ka socdan ay fadhiyaan ayadoo oon maaragtay laisku xanaaqin waxa waa sharci la dejinayo waa sharci waddankeena lagu baahan yahay qofna male maanta innagu haddaan dejino waan ka tegaynaa dadka waddanka ayaa waaye waddanka dib ugu ahaanaya marka asagoon qofna isla haysiinayn qofna iswacaynayn sida maaragtay maslaxada ku jirta waddankeena ugu wanaagsan inaan aan wada doonno insha allahu tacaala waana intaasoo laga baxayaa doodana waxaa ku rajinaya dib ugu celina guddoomiyaha insha allahu tacaala mahadsanid wasaaradda magacayga waxaa la yidhaha doctor cabdulqaadir weheliye afrax waxaan ahay la taliyaha wasaaradda caafimaadka sharcigii mihnadlayaasha caafimaadka markaan saas dhahaynay waxa uu soo socday muddo 3 sanadooda waxaa la geliyey wadahadal dheer dhammaan dadka meeshan fadhiya qof aan ka qayb gelin inuu jiro umalayn maayo marxalada kala duwan ay soo martay markii u dambeysay waxaan ku shirray xafiiska wasiiradda caafimaadka iyadoo ay ka soo qayb galeen guddiga takhaatiirta isla wasiiradda mailboxkeeda ayay uga gudbisay koobiga oo ay u wada dirtay shakhsiyan qof ahaan ugu dirtay waxay codsadeen muddo 7 in la siiyo 7 kadib aan isaga nimiday si aan uga wada hadallo ilaa 3 qodob oo ay soo jeediyeen baa jirtay markii horreysay qaarkood markaan weydiino dhahnay war hadda ma la soo akhriyo aan ka doodnee waxay yiraahdeen maya maxaa u akhrin weyseen magaciisa ma cajibinay yireen oo ma inaan dhaxgalin xataa marka ma rabin arrimahaas inaan dhaxgalo hadda laakiin waa laga dooday 3 qodob ay markii daba keeneen 3 qodob waan ka qaadanay waana lagu incorporate gareeyay oo waa lagu daray waa ku jiraan hadda qodobka ugu muhiimsan ee arrinkaas ka hadlay waxa waa qodobka 56 oo ka hadlaya in review lagu sameeyo 2 sanaba mar oo uusan ahaanin wax dhagax ku qoran uusan ahaanin oo subject to have to be reviewed macnaha mar kastaba in la review gareyn karo markaas inuu ahaado arrinkaas 3 sano oo soo socday wada hadal dheer aan ka galaynay mar kastana waa ka wada hadli jirnay asxaabteena ahaan arrinta loogu darayd waxay ahaday oo aan la kulmaynay annagu waxaan rabnaa urur u khaas ah takhaatiirta ama ordinary medici waxa la yiraahdo طبعا caalamku waa ka jiri jirtay wadamada intooda badan hadda ka soo bilow South Africa ilaa iyo intaan aqaano dhinacaas iyo Hindiya waxaa la isticmaalaa qaabka annaga aan hadda isticmaalayno oo ah ururka mihnadlayaasha dhan in la isku daro oo hal ambareela la sameeyo maxaa yeelay dhowr iyo 20 xirfadooda jirta oo mihnad oo caafimaad mid iyo sharci loo sameeyo hadii la yiraahdo 3 sano aan sidaan u dul istaagno 40 sano soo socota xataa ma dhamayn kari doono compromise markaas aan galnay wuxuu ahaa wada hadalkeena in la sameeyo ambareeladii guud oo caafimaadka soo koobaysay markaan hoosteeda ay tagaan ururkii takhaatiirta mid uu leeyahay mid nurse ku leeyahay mid midwife ku leeyahay ay gooni ugu kala ahaato body walba markaa gooni ugu ahaado laakiin hal act
oo noo suurtagelinaya caafimaadka guud ahaan inaan dalka u helno maadaama waqtigu aad u adag yahay aan la sugi karin 20 sano hadda dhiman iyo wax lamid ah arrimahaas waxaan moodaynaa inaan isku afgarannay wixii isbeddel ah oo yaryarna aan wax ka beddelay aragtideena annaga waxay ku salaysnayd in wasaaraddu ay mas'uul ka tahay caafimaadka dadweynaha ama public health waxa la yiraahdo aragtida uu ku salaysan yahay sharcigaana wuxuu rabaa inuu kor u qaado arrinkaas isaga ah waxaana dhib badan naga haystaa wax la yiraahdo unregulated private practice nidaam private practice oo wadankan ka jira oo qofka maanta hadduu doono makhaayad iska furan karo clinic u furan karo isbitaal iska furan karo isoo cidna weydiinin sida hadda ku furan yihiin shaqaalayntu doono iska keeni karo qaar saaki soo gal magaalada ay galabta wax qali karaan iyadoo cidna weydiin shahaadadooda shahaadooyinka la bixinayo ama gudaha laga qaatay criteria aan loo sameeynin waxa soo dhan markaan aragnay waxa laga maarmaanahay marka in sharci la helo malihin xitaa sharcigan waa dhammaystiran yahay qaar badan oo compromise aan ku sameeyno wax ka bedbedelnaa jiray annagu ujeedadeedu waxaa weeye wax la'aan yaan la dhigin dadkan iyo dalka waxuun ha la helo aasaas ha la helo laakiin fikirkiiuusan ahaan sharci looma baahna sharcigaan la samayn yaana dhimaysa waana mahadsantihiin shukran jaziila gudoomiye waxaan jeclaan lahaa sharciga ka hor inaan kula wadaago commentigaaga hore wasaaradda caafimaadka waxay leedahay siyaasad caafimaad oo qaran iyo istiraatiijiya caafimaad oo qaran oo golaha wasiirada la mariyey oo ay ku qoran tahay oo 9 tiir ku salaysan oo adeegyada caafimaadka asaasiga iyo waxa loogu magacaabo universal health coverage iyo kulli ku qoran yihiin laakiin caqabada weyn oo haysato farxad yar naga soo gaartay waxay ahayd in national health budget-ka Soomaaliya wuxuu ka yaraan jiray 5% farxad yar baa hadda soo gaartay in xoogaa in yar lagu daray markaas baa khidmada dadka la gaarsiin karaa wuxuu ku dhisan yahay adeega caafimaadka wadankan uu ku tiirsan yahay deeq bixiye health sector-ka oo dhan min raas Cambodia ilaa raas Caseer waa mid donor dependent ah doorka iyo kaalinta wasaaradda caafimaadkana waxay leedahay mudnaansiinta adeega qorsheynta advocacy u sameynta outsourcing iyo noocaadna afartan soo dhaafay wadanka waxaa ka hirgelay barnaamij la dhahay xirmooyinka adeega caafimaadka asaasiga ah 2012 heerka dhimashada hooyada 100,000 ee hooyo waxaa dhiman jirtay 1044 hadda wadada bangiga WHO waxay soo saareen in markii barnaamijka uu hirgelay 3 tiir lagu dhimi lahaa la gaaray 732 in 100,000 ay ka dhiman karto adduunka anaga ku hogaaminayna dhimashada hooyada maanta chat baa naga horeysa kaalinta labaad galnay oo wali meel xun oo xanuun badan ah adeega caafimaadka wadanka iyo wasaaradda dadaalkeeda waxa ka maqan institutions kala dawladda ee dhiirigelin lahaa ee hagi lahaa hore u riixi lahaa ka maqan ugu horeysa national health budget-ka oo aad u yar oo 26 wasaaradda u liidato fursad aan haystaan jeclaan lahaa gudoomiyaha hortiisa inuu uga faa'iideysto ayadoo madaxweynayaasha Afrika ay saxiixeen Abuja Declaration oo ah in qoondada caafimaadka wadamada Afrika laga gaarsiiyo 15% annagana waxaan dhaafi laanahay eber dhibici barshan intaas markaa lagu gudbo adeega caafimaadka iyo siyaasadda caafimaadka iyo qorshaha iyo dawada caafimaadka iyo siyaasadooyin tiro badan oo dugsan oo golaha wasiirada badankood maray waxaan u imaanayaa sharcigan maanta u fadhino waxaa la bilaabay 2013 waxaa la siiyey in ay ka shaqeeyaan khubaro Soomaaliyeed oo isugu jiray dhakhaatiir iyo looyaro waxaa naga saacideysay hay'ad la yiraahdo IOM waxa uu soo maray heerar kala duwan heerarkiisa ugu badan wuxuu ahaa heerar wada tashigaas oo u qaybsanay laba qaybood qayb bulshada la leeyahay bulshada kuwa ka faa'iideysanaya adeega caafimaadka ee la bixiyo iyo kuwa bixinaya dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyo mihnadayaasha caafimaadka ee markii categorization loo sameeyay 17 mihnad noqday iyo wada tashiyo degmo iyo tuulo iyo gobol iyo maamul goboleed tagay waxa la soo suubiyay draftigaas
oo ay khubaro Soomaaliyeed aad ugu soo lafagureen ku juudiyeen ku indhabiyeen markii uu dhamaaday budgetkoodii IOM 2 sano oo volunteer ah oo jeebkooda ah ay dadaalkooda ah ay ka wadeen waxay keeneen nuxurka arintaas golaha wasiirada la mariyay maanta baarlamaanka hor yaalo inuu ansixiyo aan ka filayno jecelnahay ka codsanayno kuna dhiirigelinayno haddii Ilaahay yiraahdo maadaama wasaaradda ka soo gudbay annaga tiimkeena waxaan isku bedelnay shaqaale adeegayaal guddiga arrimaha bulshada ee xildhibaanada u afarsameeyaqaano oo meeshii ay ka soo baxdo dulduleelo uga jawaaba ayaan runtii nahay caqabado badan ayuu leeyahay ayaa ka hor imaaday xeerkan waddankeena maadaama muddo badan dawlad la'aan ka jirtay waxaa jirtay in aad uu u baahay private sector-ka waxaan inta uu socday xeerkan sameyntiisa sameynay siyaasadda shaqaalaha caafimaadka waxaan sameynay sidoo kale qorshaha qaran ee shaqaalaha caafimaadka waxaan kaloo sameynay gaabka ama heerka ay farsamo ahaan iyo xirfad ahaan iyo aqoon ahaan shaqaalaha caafimaad heerarkooda kala duwan ay marayaan exercise-daas awadna waxaa ka soo baxay maadin la sameeyey magaalada Muqdisho ilaa Afgooye in 500 oo qof dad ku dhawaad ah ay sameeyaan practice caafimaad qaarkood ay sameeyaan microsurgery aanaysan haysanin shahaadada dugsi sare waxaa waddankeena ka jira in dhakhtar ajnabi ah uu sheegto dhakhtarnimo uu imaado uu sheegto takhasus nerve takhasuskaas markuu sameeyeen oo dadkeena madaxa ay dhabarka ka qabo oo ay dhintaan oo ay baabaan cidna aysan ka qabanin oo ay private xukumo private-kaas dhakhtar Soomaaliyeed leeyahay ama dhakhaatiir Soomaaliyeed leeyihiin kadibna siyaasiyiin Soomaaliyeed ay protect gareynayaan wasaaradda sharci ay ku wajahdo oo ay ku hagtaysan lahayd markii aan damacnay inaan wajahno oo aan dokumenti ka qaadnay oo aan u dirnay zamaalada Misriya اللجنة العليا للزمان المصري أما نقابة الخاطير مصر سينوه بيان نكاس دتكنا لاينا يعني سعد يا وزارة وحلو وهندذي إن يهور استاجيسو محل هاي دانا برايفت كوليه وحكلوا جرد خطط بدن وأجانبه أو أي معمول قبريدي قاركود نجا أود بدن أنا فدرال قبتين أو يسوق قبتين وأنا لهين حرفة دي أذيجي لو طلقله شرعي كان مانت برلمان كوريالو وحكوا بيه محتوى وقضاء شرعيات يقول سجشن أو لسوجي وحن جعلانها إن نادو كلا صار محتواه وحوي إن وطن كان الشرع في ماذا وكلا ضمبه شرع في ماذا أنا قد خاطرت بوكان كنا كلا قبته وطن كان وطن كليه يسمى بوكان وصن حق لهين ويسنجرين واحد يرهدو بيشنت رايتس وطن كان وطن كليه أن هبيرات اللي قلت حدلين badbaadada bukaanka wadankeena waa wadanka kaliya ee bukaanku isagoo lacagtiisa uu baryootamo inuu dhakhtar arko oo ku dulooyo markii dambana la dhaho almarxuumka aan qaldaan wadankeena waa wadanka kaliya ee bukaanka isagoo halka fadhiyo dhakhtarku isla markii prescription-ka uu qoraayo markii dhakhtarka la weydiino uu dhahay aragooba ka see markaan arkaan ka see aniga cudurku qabo sidaa darteed muxtawaha qodobada sharciga caafimaadka ee degsan waxa waaye mehnadlaha caafimaadka iyo bukaanka iyo dadka loo adeegayo wax kale haga in uu lahaado waxa ku xigta marka yaa sameeynayo waxa isla gartay inuu noqdo independent regulatory body ama guddi madax bannaan oo executive ka hoos taga oo regulate gareeya mehnadlayaasha caafimaadka Soomaaliya adduunka ka tirsan tahay meel cidla kuma taalo oo hawada kuma taalo wadamo badan oo annagana la mid ah South Africa kamid tahay Rwanda kamid tahay Imaaraat kamid yahay waxaa jira council-kan isku xiran oo midaysan tabarteena iyo taagteena nama gaarsiin karto aan istusnay in mehnad kasto uu yeesho regulatory body u gooni ah mushkiladda asaasiga ah ee caafimaadka haysta waa dhakhtar mushkiladda ku xigtana waa daawo iyo daawo yaqaan mushkiladda labaadna waa kalkaalisay iyo umulisooyin mushkiladooyin kale waxaa wada badan oo ku practice gareeya oo ku shaqeeya xirfadda shaybaarnimada ayagoon shaybaarna aqoonin dhakhtarkii isagoo leh shaybaarkii iyo farmashigii daawadii qoraayo conflict of interest ku jira ayadana waa mashaakilka ugu weyn ee caafimaadka ee wadanka ka jira ee keenay sababta loo sameeyay xeerkan sida markii la fiiriyay consultative process la qaatay waxaa la isla gartay in la sameeyo xeer qaabilsan mehnadlayaasha caafimaadka oo dhan marka hore waxaan isticmaalnay xirfadlayaal markii aan ururka dhakhaatiirtii annaga aad u wada hadlayno la faguraayay talooyinka ay soo jeediyeen waxa kamid ah in laga dhigo mehnad leh oo laga bedelo xirfad leh ayadoo xoogaa darajo iyo macna ahaan kor loo qaadayo mehnadlayaasha caafimaadka inay lahaadaan xeer hortahaga oo ummadda ka qabta bulshada ka qabta iyagana xuquuqdooda iyo dantooda sameeya
iyagoo markaas lahaan doono gurubyadooda kala duwan oo dhakhaatiirtu ugu muhiim yihiin professionalska kalena ay ku xigaan wuxuu qeexayaa xeerkan muxtawaha markii laga soo tago ee qodobo sharciyeedka ay ku qoran yihiin technicalka ee noqoman wadaniyad haddii ay jirto kuwa in laga dooday aan laga doonin numberka aan laga doodin wadaniyad markii ay jirto waa ku celinayaa iyo damiir dadnimo ay jirto aan in laga doodo ay tahay muxtawaha markii laga soo tago buugga waxaa ku qoran golahaas meelaha ka kala imaanayaan wasaaradda caafimaadka waxay soo suggest garaysaa meelaha ka imaan karaan dhakhaatiirta xirfadlayaasha kale jaamacadaha marka soo koobaya marka meelaha ay ka imaanayaan waa suggestion siyaasaddu isbedeli kartaa 4.5 lagu qaybsan karaa maamul goboleed uu ka imaan karaa waxa muhiimadeedu ay tahay mudane gudoomiye guddiga arrimaha bulshada xeerkan wuxuu badbaadinayaa hooyada Soomaaliyeed wuxuu badbaadinayaa carruurta Soomaaliyeed wuxuu muhiim u yahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed wuxuu muhiim u yahay xirfadlayaasha Soomaaliyeed baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa in la ansixiyo insha Allah waxaan ka tagay hadaayatoon rabay inaan iraahdo magacan qaybo ka mid ah Soomaaliya already waa laga hirgeliyay waana lagu dhaqmaa iyadoo uu yahay sidan oo kale dhakhaatiir haddaan nahay waxaan nahay dad hadda inteenaan meesha joogto dad muddo badan hawshaan ku soo jiray agaasimihii hadda hadlaya aniga macalinkiisaan ahay jaamacadda muddo badan baan ku soo jiray hawshaan aan samaynayay aan samaynay nin kastoo waa ka ogtahay dhibaatada iyo caqabayaasha ay leedahay markaan saas dhahayna waxaa waaye dhibaatada weyn oo Soomaaliya hayso daktarkii iga horreeyay oo wasaaradda u hadlayay markuu ka hadlayay dhib ay midwife keenayso kama hadlin dhib nurse keeno kama hadlin dhibka meesha oo ka imaanayo ugu weyn Soomaaliya waa meesha dhakhaatiirta dhibka keenaysana annaga maahin annaga waxaan nahay medical association waxaan isku aruurinay oo aan u samaysanay medical association kana waxa waaye health care-ka waddankeena ka dhacayo inkastoo ugu dawladeed aan lahayn inaan isbarno inaan ogaano daily aan ku noolnahay annaga arrintaanito maadaama aan nahay dad caafimaad ka shaqeeyo waxaa la rabo waxa waaye oo annaga aan wasaaradda aan kala hadlay wasiiradda iyo weliba waa joogay iyo maxay ahayd Cabdirasaaq Dr. Cabdirasaaq waa joogeen waxa aan ka hadlayna waxay ahayd yaan la isku qarin maadaama problemka weyn uu yahay medical problem maanta sabab ogsoontiin isbitaalada magaalada xamar ka furan iyo gobolada xataa waa gaartay ganacsata lacag isku darsanayso waa la baxaa India la tagay iyo Kazakhstan iyo Syria iyo ya dadaan la soo aruursanaa oo cidna aysan dhaynin ninkan muxuu yahay oo wuxuu sheeganaya marun baa maswaabeen taas in xataa ay jirto dhakhaatiir Soomaali ah oo dhakhaatiir isku sheegay oo aan dhakhaatiir ahayn oo meel furtay maadaama cid controleysa iyo cid la hadli karta aysan jirin waddankana uu yahay waddan kala daatay oo dagaal sukeeyay iyo balaayo ay dhigtay oo ninkaasi uu sharci darrada ku shaqeynaya haddii lala hadlo beeshiisa ay soo boodayso maxaa sharci ah oo nahigi karo oo aan ugu hortegi karnaa arrintan marka annaga waxaan istusnay in aan wasaaraddan u tagno oo aan dhahno waryaan hal koob la iskula ridin problemkan oo hal koob yaan la iskula ridin daktarkii iyo midwife-kii iyo nurse-kii iyo faydhoorkii iyo pharmacist-kii wixii oo dhan adduunka meelay ka jirta male South Africa oo sheegaya anaa ka soo shaqayn jiray markii daktarka laysan la siinaayo waxaa lagu siinayaa medical council ahaan lagu siinayaa that's the correct way medical council-ka aan samayno wasaaradda shaqo kuma leh medical council-ka aan samayno oo aan dhisno oo aan samayno in ninka la siinayo laysanka oo ahaado nin imtixaan laga qaado kenyadana usoo sokayso anigoo berri waxay ii tahay 3 December waxaan samaynayaa 40 sano oo daktarnimo 3 December 77 aan daktar noqday Rome ka soo baxay University Rome berrito waxay ii tahay 40 sano wadamo badan aan ka soo shaqeeyay sharciga iyo nidaamka soo yaawaa maanta waxa aan bixin karo oo samayn karo iyadoo wakaalad la siiyo dhakhaatiirta ayaga oo xirfadooda yaqaano ninka soo galayo ama ninka joogo meenad u furan tahay in interview laga qaado in la imtixaano
kenya noogu sukayso waxay sameeyaan waxaa waaye markii interviewga iyo titulhiisa la arko maxaad sheeganaysaa waxaan sheeganaa cardiologist ama waxaan sheeganaa qalliin bax isbitaalkaas tag oo la shaqeeya hay-adda hal lagu arko how you practice iyo aqoontaada sida ay tahay waxaa loo baahan yahay xirfadyaal experience leh oo aqoon leh inay sharcigan hagaan markii wasaaradda caafimaadka sharciga ay samaynayso minaadiyaasha ay soo qorto 15 qof waxaa ka qayb galaya 2 daktar aa ka qayb galayso inta kale waxaa waaye maxay ahayd hal xabo oo naars ah hal xabo mataqaanaa magaciisiga ah hal xabo sharciga waa loo ogolyahay inay soo galaan waa loo ogolyahay wasaaradda tacliinta sare inay soo gasho oo titulaha la raadinayo in dadka lagu raadiyo waa lagama maarmaan takhaatiirta in hadda waddankeena waay waxaan u shaqaynayna waddankeena waay annagoo waddamo kale ka shaqaynayna waddankeena waxaan u imaana waxaa waaye inaan aan bixino meesha waxaa nala fadhiyo jaamacadii waxaa nala fadhiyo hormuudiyaal oo kulliyadayaasha caafimaadka aan ka soo qabto waxaa nala fadhiyo jaamacadda banaadir iyo jaamacadda jaziira iyo jaamacadda mataqaanaa maxay ahayd ee soomaaliya saddexda hormuud waa nala fadhiyaan annagay nala socdaan jaamacadahooda ma sheegan waxay sheegteen Somali Medical Association annaga ayaa geed aan intu beexaamin karno waxaan rabnaa wasaaraddeena aan uga dambeeyno hanala shaqayso laakiin yaana nala ka dhigin dad geedda laga takoorayo la magaciiseenayo waddankeena waxaan u rabnaa healthcare oo heer sare ah oo wanaagsan tan ku heli karnana waxaa waaye khubaraa inaan guddiga ka dhigno consulka medical and dental aan sugno oo dabagalo caafimaadka xataa meynadiyaasha maaragtay goobaha caafimaad oo furan inaan kormeeri karno haddii adeegga bukaanka la siinaayo oo adeeg sax yahay iyo adeeg kala adduunya waa in takhaatiirta arrinta caafimaad looga dambeeyo ayagaa ka soo shaqeeyey ayagaa mataqaanaa maxay ahayd khubaraa ku ah ayagaa sixi karo wasaaradda caafimaadka sida ay wax u qortay inay wax ku dudumaan maahayna wax ma ku samaysmayso waxaan leeyahay oo kale Soomaaliya waa kuwa ku daashay in la yiraahdo yahay wax la'aan intaan ahaan lahayn aan sharci samaysan sheekooyinka ah dowlad ma karo sharciga haddaan wanaajin karno oo sharci qorno oo xoog aan ka dhigi karno waay aan u qaadanaynaa sharci daciif ah oo aan waxba ku toornayn oo takhaatiirta meel uga dhacayo waxaan maqlaayay hiiranka jaziira laga subinayo maalin dhexdaas wasiirku dhahayo conflict of interest waay annaga waxaan rabnaa inaan kontrolno takhaatiirta si annagana loo kontrolayo caafimaadka waddanka annaga gacanta ku hayo annagaa wadno annaga qof kasta uga xanuun badan inuu noqdo caafimaad hagaagsan oo horkac gaaro iyo meel sare gaaro marka mid aan doonayno waxaa waaye waddamada kale sida looga dhaqmo waa wadanaa waa u gudbinaynaa gudoomiyaha baarlamaanka jawaari mudane jawaari iyo maxay ahayd cali jawhar gudoomiyaha arrimaha bulshada si aad ku akhrisataan annagoo wadno sharciyada iyo kala dambeynta iyo habka lagu shaqeeyo laysankana lagu bixiyo qofkana laysanka looga qaado ma ogolaan karno 15 qof laba waaye maxaa jira sababta maxaa laba looga dhigay ikan kontrolooyna haddaan 5 siino maxay noqonaysaa ana waxay u malaynayaan maxaa ay tahay caafimaad aan la garanayn oo aqoon aan lahayn aan loo lahayn waxaan rajaynaynaa meeshaan waxaan ku fadhinaa odayaal waxaan ku soo baxno maanta halkaan la keeno waxaa waaye inaan meel marino baarlamaankeena iyo kulayna shacbiga sharci dejinta ah yaa waa meel kala ku muuqatay computerada aan waxaan rabnaa waxaa waaye arrintan in meel la mariyo oo takhaatiirta in la ogaado takhaatiir waddanaya inay yihiin takhaatiir waddankooda usoo kifaaxay ay yihiin cid naga jecel caafimaadka inuu hagaago ma jiro wasiiraan naga jeclaan karin ogaada intaan aan takhaatiir ahayn min waagi maxamed siyaad ilaa hadda meeqa wasiiraan nasoo marto oo maanta aan caafimaad ku arag annagana weli caafimaad ka kujirna war taasa naloo tackiriyo dadka ku dhimanaya caafimaadka annaga caafimaadka shuruucaan u keennay shuruucadiisu waxaan rabnaa inaan meel marino waxaan u meel marinayna waxaa waaye danta daktarka shaqada ku fulin karo midda ugu weyna ay tahay inaan keerka caafimaad aan siinayo isaanadeena soomaalida inaan helno waa mahadsantihiin odayaasha kalena waa hadlayaa
waxa weeyaan wax la yiraahdo nidaam siyaasadeed caafimaad oo la ansixiyay oo aan ognahay haba yaraatee ma jiro hadda waxaan leenahay policy health policy aan leenahay wax baarlamaankaas la keenay aan la socono male dawladdan hadda jirto sideedaba adiga keligaaga maaha defense policy ma jiro health policy ma jiro education policy ma jiro nothing inta 4 sano 5 sano waa intaan gudoomiye baarlamaankan u ahay ra'iisul wasaare kastoo yimaado oo weydiinay lama keenin marka ay isku qaldina barnaamijka ra'iisul wasaaraha ama barnaamijka xukuumadda ay keensatay oo magiciisa loo ansixiyay ma aha policy waxa weeyaan waa qorshe hawleed barnaamij lagu socdo weeyaan ma aha policy ma hayno hadda مثلا haddaan tusaale ku tuso defense policy-gan oo waxaan u raadinayna maxay tahay ilaa lixdanaadkii dadka oo hadda oo da'dayda waa la socdaan male oo garan karaan mar walba Soomaaliya waxa lagu accuse gareynayay ama lagu eedeynayay in ay rabto dal balaasi oo dadka dariska ah oo nimaad hayla salaasi waagi hore ay siyaasadda soo dejiyay ilaa hadda waa la wada koridooyada ay ku socdaan waxa aan raadinay waxa war keena defense policy oo caalamka aan tuso aniga defense policy waa sida dhul balaarsi uma socdo sheegan uma socdo inaan iraado waa la ah tan caafimaadka waa la ah hal ah hadda haysataan waxa weey ashuna ku aadantay annaka ma hayno hadii education-ka ma hayno beeniyaan isu sheegin waxa weeyaan ma hayno wax laga doodo muwaadinka uu dhigeyso ogaado golaha shacbiga la keeno golaha sare uu maro ka bacda ayaa policy aan dhigi kara laakiin wax meesha lagu dhordhoofti lahayso ma ogolin hala keeno haddii saa u soconnaa waxa weeyaan qabi qoraalkii waa kana takhaatiiray wasaaradii waxay keentay waatan guddiyo waa lagu hor keenay waxaan rabaa takhaatiirta inay toos u galaan qodob walba qodobkaasi sidaas u dhigan saas ma ahsan ku habboon yahay in ay tiraahdaan marka labada proposal isu fiirinayna markaasaan ka tashanayna ka doodayna waa arrin la yaqaan oo nidaamka sharci dejinta waa sidaas ma sidaan aan ku keensan waa ii maraysa kaliya ma waa la rogroga aqliga madaxa maskaxda ka baqa madax walaalka ku jira Soomaaliyana ma aha island ko yani jasiirad kuma nool caalamka ila noosha wadada dariskayna maxay ku dhaqmaan waa la isu diraa qarax baan ugu dhaca dad baan dirnaa takhaatiir baan raaca dad baa agteena ku dhaawacmi kara caalamka muxuu ku dhaqmaa anaga aan la dhaqmayna dhakhtarka Soomaaliyeed maanta hadduu inta ka tago oo rabo inuu Djibouti shaqo ka bilaabo nidaamka la mariyo waa maxay ma iska tagaa maxay mu furana shaati mu gadana subina mise waxba jira nidaam la marayo aan u ekaano ma dhihi kara aniga Brussels iyo Italia la mid noqon karna ma gaari karna laakiin almeena kuwa oo marta ambiski iyo asaaski u dhigma inta aan raadinay inta waa sharciga hadda maanta la sameeynaayo gundhiga u noqdo waxyaabo aan gaari doono aan fiirino ordinary meelshi waa jirtaa ee ma jirtaa leeyahay inay jirtiin kala ma inay jirtaan ogahay hadii la baabiyo wax ka lagu bedel wixii lagu bedel moodayka aan qaadano caalamka aan la socono meeshii la ma fadhinayo marka waxaan soo jeedinayaa habkii aan u geli lahayn inaan galno marka waa maxay meelaha aad dhalisan tihiin adeedan sidaan u qoran yahay saan guddiga waxaan u soo jeedinaynaa in sidaas na uu tixgelin sameeyo itfadalo هداي وزارة waxay ka dhigtay takhaatiirta sidii ayagoo sad buursi wax gaar ah raba takhaatiirta marraba wax buursi anaga 2000 kii waxaan anaga soo jeedinay markii aan aragnay 7 sano ama 10 sano aan dawlad aan ahayn jaamacadda nationalka ay baabaaday meeshaas oo sanad kastaba ay ka soo qalin jabinayeen ilaa 50 tartaro soo baxayeen 40 ilaa 50 u dhaxaysa marka gaabka soo galay 10 years ugu yaraan baahida dalka 450 takhaatiir bay ahaayeen sidoo kale waxaa baabay iskuulaadkii farsamada caafimaadka laga soo baxay haday nurse ahaayeen haday midwifery ahaayeen haday waxa soo ahaayeen annaga marka takhaatiir hadaan nahay ma kala qaadayno mana diidanin in xirfadleyda caafimaadka la mideeyo ma diidanin laakiin si tayo loo helo oo takhaatiirta ama nurse ama midwifery ama ninka jooga lab technology ama x-ray yahay waa in xirfadiisa iyo karaamadiisa kor loo qaada waxa kaliya ku qaadi kara waxa waa urur asaga u gaar sidaas darteed inta aan umbrellada laga gaarayo waxa ku horeeya midkan federaalka camal ah
in la sameeyo ururka takhaatiirta ururada naarska iyo midwiferyga ururka mataqaanaa hadday tahay tayadhowrka waxaasoo dhan micnadeeda maxaa waaye aniga takhaatiirta waa kontrooli karaa markii qalad ay galaan laakiin qof aan daktar ahayn ani ma i kontrooli karo waxaa loo socdana waxaa waaye tayada daaweynta ninka bukaanka soomaaliga muwaadinka soomaaliga in uu helo service caafimaad oo asaga dantiisa ka shaqaynaysa oo marna u naxariisanaysa marna service qualified siinaysa hadday daktar ay tahay hadday nurse ay tahay ama hadday tahay qof kastoo xirfadaas ku jira si taas loo helo waa in la helaa organization xirfadlayaashaas ayaga gaar u ah oo ka shaqeeya aqoontooda inay dhisaan karaamadii xirfadda sidii la rabay inay u gudanayaan xadgudub hadday sameeyaan la xisaabtamayo dadkaan la xisaabtamayo waa wax ka jira waa adduunka markii taas la helo waxaad u malaysaa hadda wasaaradda kor inay ka bilowday sidii guri markaad dhisaysa adiga xaggee ka bilaabaysa foundationa ka bilaabay maahina cirka ma ka bilaabaysa teetaha ma ka bilaabaysa wasaaradda waxaa la rabay waxaa ka codsanayna qof kasta magaciisa inuu ku bilaabo markuu hadalka bilaabayo magacaga aniga cismaan aadan cabdulla la yidhaha aadan cadde cismaan aadan cabdulle markii wax la dhisay guri aad dhisaysa foundationa ka bilaabay foundationka markaad dhisid waa kora u soo qaaday marka dambe aad ku tegaysa saqaf ku tegaysa wasaaradda saqafkay ka bilowday waxay leedahay guddaan dhisaynaa guddigii waxuu ku kooban yahay waxaa la yidhi intaasoo civil service ah intaasoo hal daktar ku jiro intaasoo 2 narsi ku jirto war yaa aniga i controlaya daktar ahaan haddaan eetikadii aan ku gudbo aniga yaa i controlaya haddii xirfadda aan meesha aan ku shaqaynayo aysan ahayn updated yaa i controlaya taas waxaa laga rabaa in loo xil saaro waxa la yidhaha ordinary medicine oo takhaatiirta gaarsiin kara markii la arko aniga inaa xog gudbaayo laysanka laga qaado this is what mataqaana ay tarayso waxaa waaye ordinary medicine laakiin midka hadda wasaaradda ay wado wax ay tarayso ma jirto waxay ku qasbanaanayaan marka sidii anaga aan rabno inay hoos u soo degaan ururadii la dhiso mar labaad la dhiso marka yaa horeeya isweydiin dameerkii ukuntii iyo waxaa waaye digaagii waay yaa hormaraayo annaga waxaan qabnaa inuu hormaraayo hortood in la dhiso ururka takhaatiirta ordinary medicine waajibaadkiisa maaha association maaha midka hadda annaga noo dhisan maaha midkaan waxaa waaye mid takhaatiirta shuruudda ku xiraayo horta daktarka way ma qabaa xirfadii iyo aqoontii iyo wixii laga rabay ma soo gudbay si laysan loo siiyo horta ma leeyahay su-aashaas horta la isweydiinaa marka hore tan labaad waxaa la weydiinayaa adduunka dhan waxaa ku jira wax la bar exam annagu waad ogtihiin shalay waxaa ka soo baxay jaamacadihii waa ogtihi xamar waxaa ka jira 300 400 500 oo takhaatiira soo baxaysa nationalkana waxaa soo bixi jirta 40 ya dadka oo dhan ma qaadi karnaa horta in isweydiiyo meelaha waxaad ka soo baxayaan requirementka laga rabay ma leeyihiin xaqiijinaya aqoonta inay leeyihiin madana ka hadlayso ma qodobka shanaad miya mise waa mid kale marka maya ani waxaan leeyahay saacad gudoomiye waxaan leeyahay qodobka shanaad miya kana ka hadlayso aniga guud ahaan aan u hadlaayay guud ahaan marka aniga waxaan u hadlaayay guud ahaan aan u hadlaayay gudoomiye macnaheedu waxaa waaye aniga geedkan hadda dokumentigan wasaaradda ay diyaarisay waxaan qabaa in wasaaradda ay ka hormariso sidii loo dhisi lahaa ururada xirfadleyda markii ururada xirfadleyda wasaaradda ay dhisto ha u gudubto midkan guud oo mataqaana umbrella u wada noqonayo waa ka baxay haddaan haysano aniga cardiologa hadduu ii joogo cardiologa dibadda ka imaanaya ma ka shaqayn karo waddankayga waxaa waaye tayada qualificationkooda waxooda ururkaas hadda professor cismaan sheegayay ayaa habeyn karo kaas inaan ku bilaabno oo healthcare-ka waddankan intood mid xalaala laga dhigo runtii arrinkan isla su-aashaas in badanaan ka doodnay waana meesha wax dhan ay ku socoto waxaan jeclaan lahay marka 3 qodob oo yar inaan clarify gareyno oo ayna u caddaato guddiga arrimaha bulshada iyo guddoonka insha allahu tacaala marka hore urur takhaatiir keligiis meel ma taagnaan karo waa inuu jiraa
cid uu ku abtirsato marka hore dhakhtar baan ahay seniornima laga hadlay 40 la sheegay laakiin anigu 8 sano baran jira marka sanadii baradii laga weyn waxba kama qabo midda marka aan rabo laakiin aan sheego waxa weey ordina daymeedii waa jira talyaaniga isticmaala bal xitaa gobol ay u isticmaalaan laakiin qaabka casriga maanta adduunku isticmaalo waa in hal ambareelo la wada sameeyo oo ururada isaas u jiraan iyadoo ordina daymeedii dhakhaatiirtu ay iskeed u jirayso oo cid ku haysata ayaan jirin dhakhtar baan ahay waana ogolahay waana saacidsanahay arrinkaas laakiin waa inuu jiraa ciddii hagi lahayd waa inay jirtaa qodobka labaad ee rabaan kala garay waxa weeye wasaaradda uma baahnina annaga hana loo daayo socota simply annaga private self regulatory baan nahay macna annaga isnidaaminayna annaga naqaana yani cidna ma nidaaminin way war eragaas marka sidaas loo fasiro markaas qodobka saddexaad xitaa hadii la keenay annagu waxba kama qabin in loo keeno wasaaraddu ka hadasho laakiin in la yiraahdo annaga order daymeedii soo helnay golaha annaga hanoo ansixiyeen wasaaradda iyo qaabka aan ku keenay iyo mandate-ka ay ahaydna hal iska daayo keenana sharci ee kanaana la ka dhaafo ma barabnaba total sidoo u yahayna ma qabno markaas waana mahadsantihiin shukran jaziila hordhiciyaan ku dhex jirnaa iyo waxyaalaha sida gudoomiyaha uu ka dhawaajiyaba maxaa lagu diidan yahay aan qodobayno iyo maxaa ka hor imaanaya meesha waxa markuu ugu horeysa aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo aad muhiim ah wasaaradda caafimaadka waxay dhahdeen muddo dheer uu soo jiitamay sharcigan oo marba meel soo fariisanay macnaheedu waxa waaye inuu isjiid ku jiro oo meel ku dhamaan waayo maanta aan maxkamadii taaganahay because hadii wax la isku fahmi lahaa maanta heerkan la islama yimaadeen marka inta uu soo socday wax micnaa oo sameynaysa ma lahayn intaba waan diidanay waxa kale oo la sheegay wasaaradda caafimaadka ay sheegtay bukaanku inuu yahay dalkeenu inuu yahay dalka kaliya bukaanku uu ku dhiban yahay waxaan jeclaan lahaa horta markii qofka uu wararka qaar sheegay inuu isagu xog ogaal u yahay dhakhtarka ku dhex jira oo bukaanka uu soo bito oo bukaanka u yimaada wax ka sheegi karo qofka aan maalin kaliya dhakhtarnimo ku shaqeeyo oo maalin kaliya qof aan daaweynin ma dhihi karo mana bixin karo jawaabta noocaana mana oran karo bukaanka waa dhiban yahay because umaba ihid ahale ilaa adiga uma aan shaqeynin adduunyo badan ku dhaqantaa la yiri isku dardarka oo aad Dr. Wehliyo mar labaadna ku celiyay waxaan rabaa in adduunkaas la sheego South Africa uu soo qaaday Dr. Maxamed Yusuf ka soo shaqeeyay registraartana ka ah ma ku jirto hadda wuxuu soo qaaday Italy ana registraarta ka ah anuu yahay dalkeygii aan wax ku soo barto ka diiwaan gashanahay mana u shaqeeyo sidaan mana jiro isku dhafka marka waxa fiican marka la hadlayo mudan gudoomiye qofka hadaanu daliil la iimaanay ina at least anaga weydiino dhahno man daliilka iyo hati burhanak hadii kale waxay noqonay in qofku iska sheego wixii oo aan saliraatoona lahayn waxa kale Dr. Wehliyo uu sheegay inaan nahay private kan difaacanay Dr. Wehliyo asaga laftigiisa dhinaciisu private ka yahay iska dhig dhinaca uu ka yahay la taliyaha wasaaradda laakiin waa jaamacadaha private ka oo dalka ka furan isbitaalada private ka oo dalka ka furan ayuu mid ka yahay madax marka ma ahan inuu uu public yahay waxyaalaha aan ku diidanahay annaga oo sharcigan ku diidanahay farabadan yihiin qof walba uu qodobayn doona laakiin aniga waxaan rabaa inaan ka qodobeeyo afar oo saddex aad muhiim u yihiin waxa koow ka ah oo laga been sheegay wasaaraddu ay ka been sheegtay inay gobolada la tashatay Dr. Ali Noor oo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland right now oo ah Cornell hore oo ah cardiolog hore ana telefoon u diray oo weydiiyay mana maqal mana arag mana oga ana u diray draft oo Dr. Ali Noor akhri marka Jubbaland hadii maamul goboleedyadu ku jirin hay noo sheegeen kuwa kale ma aan daba galin horta waa taas maamul goboleedyada lagala ma tashan daliilkeeduna waan hayaa ani waxaan rabaa hadda wixii ka dambeeyay mudan gudoomiye qofka hadlaaya waxa daliilkeedu inuu keeno tan labaad aan ku diidanahay miinadayaasha xirfadleyda iyo whatever aragtidina ku wacdidba medical and dental council caalamka dhan oo ka jira cadiya madow islaamiya gaal madow iyo buluug waxaana la fadhiya dentistayaasha meel ay kaga xusan yihiin male meel looga yeeray male meel laga tixgeliyo wargeliyana male waana xaadir oo markhaatiyaal waana dental halka laga tixgeliyay oo lagu xusay in midwife iyo nurse ay ku jiraan abaabulaan qoraan bal qofka soo qoray xataa waa nurse annaga
annagoo nooc walba leh oo da' walba leh waxaan u malaynaa kuwa ugu da'da yaran ku jira adiga meeshaan maanta isugu yimid 10 December anna waxaan xiraa 20 sano oo medical ah 10 December 1997 shahaado gacanta laga saaro oo kitaabna la imariyo la idaariyay marka 20 aan anigu sheeganaya oo ku jira professional qodobka labaad mid waa maamul goboleedka mid waa dhaqaatiirta ilkaha agaasimaha daawada iyo qalabka caafimaadka oo wasaaradda caafimaadka ayaa registerka haynaya oo diiwaanka gelinaya kaasa conflict of interest ah hadduu wax noqonayo ma ahan sharci aan aqbalayno midaan yeelayno because ma ka jiro caalamka war dhowr jeer waxaa lagu soo celceliyay Soomaaliya caalamka ka mid tahay cirka kuma taalo laakiin maskaxdeena ahaan qof walba wuxuu rabaa wax walba intuu boorskurti inuu faraqa gasho sharcigan hadduu soo jiitamo wuxuu ku jiitamo isjiid wuxuu ku jiitamo dadaan u ahlahayn bal akhiiran waxaan imaanay heeranka inay wasiiradii tiraada aniga siyaasi ma ahay marka haddii wasiiradii siyaasi aysan ahayn dadkii ku jira wasaaradda u hooseeyay aysan caafimaadka waxba ka garanayn waxaan u malaynaa mudan gudoomiyaha usha dhexda nooga qabta adaa lagaaga baahan yahay oo ah qoortii labada garab u dhaxaysa nabadbaadi dalkaan nabadbaadi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun haloo laabto wabillahi tawfiq markii hadda uu hadlaayay Dr. Usman iyo gabadhaas aniga khibradihiin horta kulligiin waa idin aaminsanahay shaati cadada soo qaata waa sukiin diiba laakiin hadda meesha iga dhiga khibradan xaq iga dhiga yaa senior yaa junior amel naga dhiga waxaan rabaa dhismaha arintan saad u doodaysaan wasaaradda inta qodobkan shanaad waxay ku soo dhistay guddi oo wasaaradda caafimaadka tacliinta sare garsoorka ururka dhaqaatiirta musharife ilaa 12 qodob yani hay-adood aan iraahdo ilaa 12 hay-adood ka kooban hay-adahan marka ay meesha imanayaan ma leeyihiin ururo kale ay ka yimaadeen su-aasha ay qabo haddii tusaale aan sameeyo masalan dhinaca shaqaalahan ku dheereeyaa dhinaca shaqaalaha haddaan tusaale ka soo qaado waxaa dhici kara ururka shaqaalaha magaciisa caafimaadka ururka shaqaalaha isgaarsiinta ururka shaqaalaha maxaa la yidhahdaa howlaha guud ilaa aakhiri ururadaasi hadday rabaan inay samaystaan mid oo martaa confederation ay yidhahdaan male federationyaalkii confederation ay isugu imaanayaan confederationaha waxaa xubin u soo dirsanaya ururka asaga oo jira sidaas miyaa tan hadda oo ay takhaatiirta tilmaamayeen mise tan naftirkeeda sidaas u dhisan masalan takhaatiirta ma isaxaysaa ay abukaata haliyahay dhakhaatiirta waxay xoogga saarayaan habilitazione professionale qofka la siinayo inuu waddanka uga shaqayn karo takhtarnimo in dad competent ah ay bixiyaan guddigii loo sameeyeyna waa looga badan yahay waddamada kale sambal fara badan oo waddamada ay ka kala yimideen na kulli waa wada fiiriyey waxay wada sheegayaan dhammaantood inay ordinary mediska bixiyaan certificationka tendencyga adduunyada qaateena si gaara waxaan kaloo usii fiiriyey maadaama annaga qaanuunkeenna uu ka soo jeedo romano germanicadana waa fiiriyey iyaga laftigooda tendencygaasay qaateen haddii takhtar ka shaqaynayo waddanka gudihiisa loo samaynayo certification wasaarad shuqul kuma laha ordinary medisya imtixaamayo kontaroolayo mas-uuliyaddana qaadayo wax kalaa ka sii daran markaan fiirinay qodobada halhal haddaan usoo qaado waa fiicnaan lahayd laakiin anigu waxaan qabaa in laysu keeni karo waxaa laysu keeni karaa wuxuu maamulayaa sharcigan mihnadlayaasha iyo xirfadlayaasha caafimaadka laakiin chapteriska si fiican uma hagna ayaga laftigooda loo samayn karaa associationskooda dhexdiisa muddo gaabanaana lagu samayn karaa wax sahlan way asoo hal sharci uu yahay laakiin ordinary medish ay leeyihiin waxa ku saabsan habilitationaha in qofka uu waddanka uga shaqayn karo takhtarnimo loo dhaafo taas waa kow tan labaad mihnadaha kale laftigooda iyo khaladaadka sharciga ah lagu geli karo in ciqaabtooda meesha lagu qoro oo si tafaasiila marka intaas yaraa ka maqan waana la isugu iman karaa
laakiin tan ku saabsan mihnadan ku shaqaynteeda waxaa hagaayo takhaatiirta maxaa yeele meel kasta imaamay leedahay imaamka caafimaadkana takhtarka wa marka waxaan soo gelaya wasaarado badanaa lagu soo daray wasaaradahaas si toosa iyo si dadaba ikhtisaas uma laha tan abilitationaha in uu qofka ku shaqeeyo lacalla marka laga soo qaado professional associationska looyarada ka soo qaad looyarada iyagaa isxukuma autogoverno oo looyaro ah medical sectorkana wasaaradda boolisiga ha u samayso laakiin iyaga inay isxukumaan waayo iyaga inay la yimaadiin waayo jidka saxan ee loo dhaqmi karo qaanuunkana lagu qoro haddii la khilaafo in la ciqaabayo qofka waana ku qoran yahay qayba ahaan laakiin si khafiifa ugu qoran yahay qawaaniinta waddamada qaarkood waa culus yihiin marka xoogaa yaroo ku naqasho iyo qurxinuu rabaa ra'yigana isma diidi doono wayna wada socon karaan laakiin haddii laga dhigo abilitationaha mid burocratica ah takhaatiirta miday isku wada raacsan yihiin discussionska aan la galay musiiba ka imaanayso waxaa waaye uu u leeyahay inuu بسم الله الرحمن الرحيم هرتا دخاتير وزارة guddiga dhammaan horta meesha markaan isugu nimid inaan wax toosino ha ahaato yani aan iska ilaalino xasaasiyadii kale sida u sheegay waayarka waxaa weeye inaan afaarno meelaha hadda inaan afaarno guddi ahaan waa ka soo doodnay marka leeyahay isnahan telefoonka kasoo doodnay dantanka arrintiis waan aragnay waxay ila tahay inaan xaggaas ka dhigno wixii isku khilaafsanaa sharciga oo meelayahan oo badaa sida isugu keeni kara shahaado dibadda qof ku soo qaatay wuxuu soo raacay habraaca wasaaradda tacliinta sare guddi qiimayn shahaadada ayaa jira markaa kadib baa loo soo socdeeyay loo soo degay jaamacadaha qololka intooda badan baa hada laga kanwaa haysta iyo maxaan ku raahdaa shahaadadeedii sidee loo ixtimaali kara waa arrin kaleeto oo wasaaradda iyo guddiga iyo ugu oo dhan si kaashan karta wey shahaadooyinkaas in la qiimo waxaa weeyaan xagga iska dhigno sida jirka loo daaweeyo maskaxda loo daaweyno aan maxaan ku raahdaa isku dhinac u wadno qodobada lasu keeni karo sida maxaan ku raahdaa arrimaha lasu hagaajinayo aan ku soo koobno markaan ka dooday for example haddii aan guddi ahaan tayada aan idiin sheegno xubnaha dhakhaatiirta meesha ugu jira waan maxaan ku raahdaa soo qaadnay waxa kaleeto aan soo qaadnay qolahaas yaa madax u noqonaya qofkaas shay baarista mise dhakhtar baa madax u noqonay xubnaha ku tartamaya gudood maxay noqon karaan matalan doodaas waxaa weeyaan hadda waan isku soo qaaday annagana waxaa naga dambeeya baarlamaanka naga dambeeya marka hada la yidhahdo maqolyahay oo dadka laakiin waxay la tahay aan abaarno aan daaweyno qodobadaan aan daaweyno bismillah gudoomiyaha iyo gudoonka magacayga maxamed cabdiqaadir cabdi asmaa shaqaalaha tababarada wasaaradda caafimaadka waxaan rabaa wax yar oo clarification waxaan u maleynayaa structure iyo waxa isku qaldo implementation inaan kala cadeeyaan rabaa hal mar si kooban aad u kooban mudane gudoomiye inaad si fiican ii dhageysataan waa association oo xirfadlayaal caafimaad oo gaar ah waa jiraan hadeertaan ayaga oo dhan qof kasta markuu istaagayo asaa is sheegaya anuu hebel ah oo ka tirsan associationkaas marka uu jiraa xirfadla caafimaad dowladdana shaqo muqulaha inay caddaato waa midda koowaad union waay gaar ah dowladda shaqo muqulaha ayagaa waxooda danahooda iyo waxaas ka hadlo wada shaqeyna naga dhexaysa macnaha waxaan ka wadaa urur xirfadlayaala laga hadla midka urur xirfadlayaal noocu doonaha aad uu jiraa mid neersinaa jiro mid wifi jiro mid dhakhaatiirna waa jiraa taas qodob waay
qodobka aan anaga laakiin meesha aan u imaano waxaa waaye regulationka yaa sameynaya regulationka mar walba dawladdaa samaynaysa dawladda noocay noqonayn wasaaraday noqonay independent body may noqonay waxaas documentigay ku qoran yihiin in waxoogaa documentiga lagu laabto oo wax walbo documentigaa kor istaagaya asaga la dul istaaga way ficlan waxaa ka ratib maayo doodo waxaa ka ratib maayo qofka markii lasoo eedeeyo dembiyaa lagu soo eedeyn doonaa waay ay looyarada usoo galeen waay ay wasaaradda cadaaladda usoo gashay waxaas meeshaas maxaa la dhahaa booliiska xataa markii hore ku jiray laakiin gadaal dambe waa laga bixiyey maadaama loo baahan yahay in qabasho xataa ay imaato haddii la rabo in xirfad annaga marka waxaan rabnaa ka wasaarad ahaan sharcigan waxaan usoo bandhignay oo isugu soo qabanay hal sabab keliya in la isjiijiido aniga ku faraxsanahay sababtoo ah meesha shaqaa taala waa muhiim in la isjiijiido oo shaqada la isku jiijiito mana diidanin arrintaas waana soo dhaweynaynaa dhakhaatiirta communitieskooda keliya arrinta resource issues waaye maxaa lahaa annaga ka dawlad ahaan uma hayno tabar badan in la dhiso baadiye kala duwan oo tiro badan oo isgarab yaallo waxay u baahan yihiin xafiisyo running costay u baahan yihiin shaqaaleynay u baahan yihiin waxyaabo badanay u baahan yihiin kulley idinkaa naga badiyo issues aad u weyn waay marka waxaan isdhahnay maadaama dadka soomaaliyeed xirfadleyda xataa ay kooban tahay sida saxda ah tusaale ahaan dantiistayaashaa lasoo qaatay hadday u badato cirka la geliyo 50 qofood ma gaaraan maxaa la dhahaa dhakhaatiirta haddii cirka la geliyo 50 qofood ma gaaraan waxyaabo badanoo marka waxaa jira oo keenaya in dadkan la isku keeno sababtoo ah oo maxaa la dhahaa aan u aragnay inay tahay marka koowaad in lagu bilaabo of course sharciga followis wuu yeelan karaa followiskaas waxaan dhahnay ha laga wada hadlo labadii sanaba hal mar ha la isaga imaado wixii lagu dari kara iyo wixii laga dhimi karaa hala sameeyo marka sida muuqato waa laba arrin dadkii la regulate gareyn lahaa ma ayaga regulationka sameynaayo macnaha inaan xoogaa iswaafaqna aaday muhiim u tahay mise ayagaa wax regulate gareynayo isregulate gareynayo maxaa dawlad looga baahan yahay haddii ayaga isregulate gareynayo issues meesha imaanayo waxaan ka wadaa marka xataa dadka soo galaya hadhow oo guddigan oo madaxda ka noqon doona beri ka maalin waxay noqonayaan dad ayaga ka mid ah laga yaaba dadka meesha fadhiya inay ka mid noqdaan dadka maxaa la dhahaa barnaamijkaas wada dadkaas beri ka maalin dawladda u shaqeeyaan SMN u shaqeeyaan private sector mu shaqeeyaan way ka soo dhax baxayaan shaqadii maxaa la dhahaa shaqadooda ay u madax banaanaan marka waxaan rabnaa anaga ka dawlad ahaan wixii inaan cadeyno haddii ay tahay ha lagu laabto sharcigan marka wuxuu noqonaa qaybta dhakhaatiirta iyo dantiistaha in laga bixiyo si ay wax u fududaadaan ka wadaa oo inta kalena la isku qabto oo laba sharci la baas gareeyo marka ma saasaan samaynaynaa mise hal sharciyaan ka dhigay hal meelaan saxaynaa raalli ahaadaya meesha isjiid maaha waxaa weeyaan waxaa objectivada aan ku heshiin objectivada inta isu khilaafsana damaanaqaad muwaadinka soomaaliyeed loo qaadayo in dhakhaatiir iyo daawo fiican uu helo wey layskuma khilaafsana dadka meelaha ka shaqeynaya kartidooda in la hubiyo inta ayna shaqo bilaabin layskuma khilaafsana sideen u helnaa sharcigan laftirkiisa wax dhan la gelin karaa waa haddii marta oo laysla afgarto midda tan oo aad mar walba kusoo celisaan labadii sano maraa dib loo eega aad leedihin sharciga dib ma loo eegayo sharciga waxaa la geliyaa waa mabaadi laakiin waxaad ku dhigi kartaa qodobka ugu dambeeya aad leedahay regulamenta loo samayna ama xeer nidaamiyaha marka wasaaradda samayn karta xataa baarlamaan uma baahna marka laakiin sharcigaa dib loo fiirina labadii sanaba hawshaas waxaa waaye macalin dooro waaye kaas naga dhaaf marka aan dhakhtarada mid aan ka siiyo ka bacdi waxaan rabaa inaan bilowno in aan u galno qodobada toos u aadno see lagu toosiyaa aan nidhaahno fikraddii dhakhtarka muxuu yahay fikraddii ay keentay maxaa la yidhahdaa ay keentay wasaaradda caafimaadka muxuu yahay si guddiga u arko waxaa sidaas oo xildhibaan shariif uu sheegayay in maaragta aan toos u galno sida loo habeyn karayo laba sharcina maaha chaptersaa lagu samayn karaa yani fusuulaa laga dhigi karaa iyadoo aan laba sharci la dhigin ahlan wasahlan doctor baashi adiga mahayd walaal sharciga waxaa la samaynayaa mataqaanaa in guddi la sameeyo guddigan shirtood oo ahaado 15 wasaaradda ay soo qortay laba takhtar ma ahaan karto waxaan ka hadlayna waxaa waaye inaan ku laabto ma rabo doodaasitood laakiin speculation ayaan la samaynin ma ahan Somali Medical Association inay ayaga hanato ay gacanta ku qabsato guddigaasitood waxaan rabnaa waxaa waaye guddi basic takhaatiir inuu yahay guddiga oo takhaatiirta iyo takhaatiirta ilka kaas waa Medical and Dental Council bas intaas igad baan ka tirsanahay dawladaha ka jira oo dhan waxay leeyihiin medical council
kenya uganda ethiopia djibouti sudan كل waxay leeyihiin medical board المجلس الطبي السوداني Kenyan medical board and so on qolo isku wada qaaday professionkii oo dhan ma jirto tan labaad su-aashaadii ururo shaqaale oo qolo walba qof soo dirsanaysa oo urur madalaha samaynaysa ma nihin waa xirfad tayasiinta caafimaadka ama dhakhtarka ama neerska soo marka waa inay noqdaan professionals 15 qof oo wasaaradda qodobka lixaad qodobka shanaad uu ka hadlayo sidii ururo shaqaale oo kale u dhisan yihiin wasaaradda qof ay soo dirsanayaan kan 15 kooda hadday fariistaan ma qiimayn karaan jaamacad hebla wadankeena kontomee jaamacad ay sii marayaan jaamacad walba waxay soo saartaa dhakhtar dhakhtarkaasi waa in meesha adeegsan lagu qiimeeyo imtixaanna laga qaado si loo siiyo license cidda siinaysa ina marka waa inay noqotaa awoodda siin kartaa dad professional ah 15 qofi ma siin karaan waxay u baahnaan doonaan subcommittee oo dhakhaatiir ah oo yiraahdaan qofkan imtixaan ka soo qaaday waxaa loo soo noqonayaa meeshii aan u soo soconay marka inaan dawaali aan yeelano medical board waa mid awoodaha qodobka lixaad oo guddigan uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu imtixaan qaado waxaa ka mid ah inuu shahaado qiimeeyo waxaa ka mid ah inuu ruqsad siiyo waxaa soo on intaasina mid uu qaban karo guddigani maahan waxay u baahan tahay guddi dhab ah midda kale waxa weeye medical councilka aan rabno ما عند وزارة حوسي ماذا سيدا شرعي كقرن واحدة وزارة هبلة أيو حوسي ماذا بدي أنا دقراني وإنه national committee ونقدر بدي قرن وقيبسن أو سينتا يتينتا يقيمينتا شهادة أما دي بدأ كلمة أما بدأ كلمة بدي قرن ينقض سيدا بدي هذا بدي حقوق الإنسان كا بدي قرصور كا بدي فلان كا مركا وحربنا إنه بدي قرن noqdo qodobka kale ururada bulshada xirfadlayaasha ama maxaa la yiraahdaa shaqaalaha wadanka ka jiraayay waxa dastuurka xaq wuxuu u siiyay inay samaysan karaan ururo bulsho dhakhaatiirta looyarada macallimiinta mid walbaba inay samaysan karaan association shaqadooda iyo professionkooda ilaaliya sharcigana waxaa ku taala inay ka codsanayaan guddigan arrimaha hadday rabaan dhakhaatiirtu inay urur samaystaan waa inay ka codsadaan qodobka 49 ayaa wuxuu leeyahay waa inay soo qortaan marka awoodiisa ma aha tacliinta sare ayaa iska leh national policyga jaamacadaha jira iyo qiimeyntooda iyo ruqsadda halkaasaa laga soo qaadaa guddigani ma bixinayo private clinicska wadanku sharcigu lahaa 1984 ayuu soo baxay sharciga siinaya dhakhaatiirta inay mihnadooda si private ugu shaqaysan karaan marka maanta ma aha wax hadda la siinayo waa sharci jira oo golaha shacabka waagaas baarlamaankii afraad miya baarlamaankii saddexaad miya ma garanayo ka soo baxay marka taana sharcigaas loo aadaya kan uma baahna in la aado waxaa kaloo ku taala guddigan inuu wasaaradda la talinayo la talinta wasaaradda ayaa ku taala wasaaradda iyo guddigu waa inay kala baxsanaadaan oo aanay shaqo isku lahayn wasaaraddu la taliyaashooda iyo waxay leedahay iyo national health policygeeda guddigan isagu wuxuu u qaybsan yahay keliya qiimaynta shahaadooyinka iyo dabagalka dembiyada ka dhaca dhakhaatiirta ka dhaca waa mahadsantahay markii iskuulka ay dambeysay dr maxamed yuusuf yani dr cali baash iyo waxaan isugu tagnay wasaaradda caafimaadka waxyaabo badanna waa isla dhadhaweyn ilaa xad wax waa isla dhadhaweynay waxay ugu maqaale waxyaabihii aan isla bebedelnay
draftigii la soo gudbiyey xitaa oo idin soo gaaray xitaa inuusan draftigii sax ahayn xitaa hadal noocaas ilaa xalay ilaa shalay aan maqlaayay soo gaaray bal horta waxaa fiican inaan annaga dib isugu noqono wax badan aan soo dhadhaweynay ilaa xad wax baan soo dhadhaweynay kii draftigii hore ee ahaysanay kii final draftig miya ka ahaysataan mise waa mid nuqul hore oo maxaan ku dhahaa inuu yahay kaas in la hubiyo qodobkaas waan jeclaan lahay intan نصيحة الفلوسية. وزارته كنا مقيدة اوكي جود waxaan jeclaa inaan sheego macnaha qodobkaas inaan banaanka u soo bixiyo oo kaliya waa maasantii maxay ahaato qof walba oo meel yar ka fiiriyo horta ha laga iska dhaafo annaga aan qaadano maanta waxaan joognaa inaan baarlamaanka hor fadhino inaan rabno qodobkii caafimaadka inaan hirgelino qodobkaas caafimaadka ha noqdo qodob hadhow markuu dadweynaheena u noqdo cuntami karo shaqayn karo ilmaheena ay beri u ay karaan wax kasta oo ahayba horta intaas laga abaaro waa ficnaale midda labaad waxaa aad meeshaan u taagan inay dowladdu wasaaradda caafimaadka aad u jeclaaleed qodobka inuu hirgalo yaas waa hirgala qodobka annaga dhanna ma ka soo horjeedno sharciga qodobka sharciga inuu hirgalo annaga ma ka soo horjeedno dhakhaatiirtuna ma ka soo horjeedaan sharciga inuu hirgalo dhakhaatiirtu diyaar waxay u yihiin in sharci la helo in sharci oo hirgalo diyaaray u yihiin wasaaradda caafimaadkana waa og tahay marka baarlamaanka waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo annaga dhexdeena aan ognahay adinka inaada ogeyn oo u baahan in clarification fiican lagu sameeyo midda kale waxaa muhiim ah midna waa qodobadii iyo sharcigii midna waxaa waaye see loo implement garay doonaa iyo see loo fuli doonaa yaa fulinaayo yaa awood u leh horta inaan qodobada u qaybino siday u qaybsan yihiin 15 qof meeshaan lagu qoray 15 qof xataa meeshay ka imaanayaan iyo magacaabayo iyo awood u leh qodobkan kuma qorno meel buugaan ku qorno waa ogeey waa wax ka maqan oo u baahan in la sameeyo marka qodobkan buugaan inuusan sidii la rabay ahayn anaga dhan waa ogeey aan soo bilowno aan fiirino meelaha oo qodob ahaan ka qaldan yahay aan saxno midda kale waxaa laga hadlay inaan dadka uga darin hadda waxaan qodobadan lagu qaban doonaa maal baraakiska magaalada ka jiro laakiin hadduu asagaba qaldan yahay maal baraakis ma soo qaban doono berri maal baraakis maba qabanaayaba haddii asaga qaldan yahay haddii gacanta loo geliyo dadkii aan ka ilaalin lahaydna khasaare kale ay noqon doontaa because meeshaan waxaa qoran 15 qof oo mid walba meesha horeba ka yimid hadhowna codaa la qaadi doona qofkaas codka wax ku heli doonaa maana sharci wax ku heli doonaa ma aha midda labaad meeshaan waxaa la dhahay code of conduct oo medicine-ka dhakhtaraa bixin kara code of conduct medicine-ka waa la ogyahay waana qoran yahay dhakhaatiirtaa bixiso dhakhtaraa isku xukumo dhakhtaraa sameeyo meeshuu rabo dhakhtarkaasaa ka yimaado laakiin waa body la regulate garaynayo dowladdaana regulate garaynayso qof diidana ma jirto the body of the regulationka oo dowladda qof u diidan ma laha laakiin dadka regulate garaynaya waa inay noqdaan dad annagana aan ognahay ayaguna ogyihiin aamin ah qofkee noqon karo oo samayn karo qof aamin ah dadkan berrita aan u kala eexadoonin hadduu u eexdo wax qabanayo dambe inay jiraan adduunka dooto sharciga wax qabanayo jirin ma soconayo sharciyadan dhan oo hadda qoran waxyaabaha qaarkood meelay ka soo bilowdaan iyo meelay ku dhammaadaan labadaba male marka si dhexe mu u socon karaa marka ani waxaan jeclaan lahayn iyo in isxagxagashada tirada badan la iska joojiyo dad badan inta waxay ogaan lahaayeen saan waay kan waay gudoomiyaha arrin oo soo qaatay oo aan aad u jeclaha jirto oo ahayd dadka caafimaad ma helaan برايفت دكاتره كسو جيد ولي برايفت ولي عند علاج انا بابليك وشغله ولي لا كما قال يفقوا عن داوين وانا جعلها وانا هذا تم الوهز لكن waxaa rabaa yaa ilaalinaayo qofkaas who is protected yaana protect garaya yaa isku aaminayna because hadii qodobadii anaga ayaa dhaweyd madaxma isku soo dhaweyna meeshaana lama imaan lahayn hadii qodobadii aan isku raacnay si sax loo fuliyo marka qodobadii waxba laga taataabtay marka taas maxay keentay inaan maanta inta isku jijino hadaan dhaqaatiirtana marka ani waxaan jeclaan lahayn inaan arrintan aan u sameeyno waa la yaqaanaa kulli dhakhtar waa kuwa wasaaradda ka socda dhakhtar waa anaga dhaqaatiiranahay wax saxana waa naqaanaa wax saxda miiskan kala soo saaraa looga dadka aniga soo doorto codkii soo siiyay medical association-ka kamid dadkaasaan matelaa waxaa kamid ah rugta ganacsiga Soomaaliyeed private sector kan matelaa waxaan matelaa NGOs-ka iyo maaragtay grassroots organizations waxa xitaa ku jira culimada Soomaaliyeed waa barela aad weyn waxaan rabaa kaliya inaan sheego dawladda dhan waay haddaad maqasho gudoomiyaha bulshada rayidka
waa nabadoonkii baadiyaha oo mid casriya laga dhigay gudoomiyaha bulshada rayidka haddaa maqasho waa nabadoonkii oo maaragtay baadiyaha joogi jiray oo magaalada markii la keenay gudoomiyaha bulshada rayidka laga dhigay intaas waa kaftanka waxaan aniga ii muuqata si technicala markaan u hadlo waxaa dhiman kan waa second hearing intaan baarlamaankii la geyn in xoogaa doodaan aad qabateen soo maaha processkan wuxuu ku socdaa second hearing aniga waxaan tala ku soo jeedin lahaa waa tala waxaan soo jeedinaya meeshaan waxaa laga sheegay waa ku filan yihiin in la isfahmo oo waxna la isku raaco laakiin waxay u baahan tahay one step back oo in guddigii maaragtay dhakhaatiirta iyo wasaaraddu ay hal mar isku noqdaan intaan second hearing la aadin abukaatayaasha iyo raggeennii bulshada rayidka nabadoonnada casriga ahayna aan la joogno kabacdina aad u oggolaataan in adigoo joogo weliba because shirkaan inaad timaado runtii anigu waxaan si aadaan ugu farxay yacni runtii farxad weynay siisay inaad wasaaradda iyo dawladda sheegto inaysan wax public policy oo qoran lahayn oo ilaa hadda officially la dhihi karo waddanka iskala jiro inaad state garaysana waxay i gelisay farxad kale marka inaad oggolaato oo keli ah ma ogi waqtigaaga inuu saxmad ku jiro waa qiyaasi karaa mashquul tahay shirar badan ku jiro laakiin another week iyadoo wasaaraddii shaqadeediina aan maaragtay dib loo dhigin oo waqti badan aan laga dhumin wasaaradda isla markaasna concernka dhakhaatiirtu qabaan doctor maaragtay cismaan aadan caddaa xoogaa yar personal interest asaga difaacanaya aniga inaan aqbalo way u adagta personally way ugu adagta wax aad u adag yani waxyaabaha oo qofka aan magaalada joogin ama aan dadka aqoonin waa laga yaabaa statementigaas inay la fududaan laakiin aniga wax badan aan ognahay bulshadana waan ku dhex jirnaa marka one step back aan hala sameeyo tala soo jeedinteed waxa waaye looyaradii oo yaqaanay documentinka مثلا one technical aspect oo ku jira waxa waaye delegation of power kaliya ka maqan hadda sharcigan markaa ka dhakhaatiirtu waxay sheeganayaan medical councilkii iyo dentistry councilkii hal la sameeyo waa in sharcigan uu dhahaa waa inuu qodobkii uu delegaaraya oo authority uu delegaaraya inay certificationkii sameeyaan bis wax iska yaro symbol technical waa in sharcigaana lama tuuraayo waa sidiisa waa la soo qurxinaa kaliya ma la tuuraayo sidiisa yani daaqadda ma laga tuuraayo laakiin wax yar oo farsamo ah oo technical sida loo yaqaan sheega kaliya lagu daraa dhakhaatiirtiina qancinaayo oo professionkooda ku qancinaayo wasaaraddiina qancinaayo inay tahay authority dalkan maamulay ya dan ah aniga waxaan metelaa laba interest oo mararka qaar dilaamo xoog leh oo ka dhalanayo dhakhtarka haddii lagu xudgudbo waa qofka aniga ay ahayd mas'uuliyad iga saareed inaan xaqiisa difaaco qofkii shacabka ahaa iyo publica ahayna waa qofkii aniga mas'uuliyadda koowaad iga saaray marka conflict of interest kama imaan karta labadu waa isu imaan karaan wasaaradda authoritygeeda la siinaa dhakhaatiirta wax professionkooda lagu respect garaynaa dadka shacabka inay u shaqeeyaanna waxaa ku controlaya sharcigaasa ku controlaya sharcigaa cid walba ka sarreeya walaa wasiir walaa dhakhtar walaa wasaarad sharcigaa ka sarreeya adinkana waxaad tihiin sharci dejintii halkaas isteeban tala kusoo jeedinaa haddii ay aqbalaan maaragtay dhakhaatiirta iyo wasaaraddu hadday aqbalaan waa isteebaagaas ku noqonayna waana la soo wada farxalinayna insha allahu tacaala gudoomiye iyo xildhibaanaha sharafta leh dhakhaatiirta wasaaradda aad u mahadsantihiin runtii aniga waxaan oran lahaa dhakhaatiirtu marka laga soo bilaabo dagaaladii sokeeyay waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyay oo mudoobay oo wax loo yaqaano joint health authority sameeyay oo xuduudii u dhaxaysay magaalada Muqdisho burbursay waa dhakhaatiir u taagan inay bulshada u gargaaraan waxna u qabtaan u suufiyaan xilligaas ilaa hadda waxay ahaayeen dad kaliya soo shaqeynayay waxayna ku shaqeynayeen voluntary basis macnaha dhakhaatiirta ma lahayn dawlad wax siisa ama wax qabata inta yartaa ay ka qaataan kliinikada waxay ahayd wax shaqada ay ku fuliyaan oo samafal ahaan ay ku wadaan ay ahayd ilaa maanta midii bay u taagan yihiin mid aan aragna waxay tahay gudoomiye hadda adiga ka dhawaajisay aniga hadda maanta baxo anu 1995 kii waxaan tagay dalka Kenya tagay markii aan tagay waxaan dokumenti geystay wasaaradda caafimaadka waxaa la ii diray hay'addan loo yaqaan Kenya Medical Board كيف مقابل كنت مرة جيستي وحي رادين سوي ديار قرون امتحان بالغا قاضية امتحان بالغا قاضي امتحان برنا كقول يستعيا وحليسي وحلو يقانو circulation لو يقانو employment relation حتى براكت اللي مثل employment relation كاسو حاجة أنا كوش شقيو اسبوع الله دل كاسو يالا إياه اسبوع أنا كشقيو
muddo 5 sano markaan ka shaqeynaa kadib ayaa waxa la siiyay wax loo yaqaano private practice license la siiyay marka waxa dal marka la yimaado waxa loo baahan yahay inay jirto hay'adaas waxa waa medical board and dentist council ayaa la yiraahdaa dhakhtarka hadduu ka yimaado meel kasto oo wadankaas uu ka yimaado imtixaan baa laga qaadayaa waxay kaloo awood u leeyihiin inay kontroolaan curriculumka jaamacadaha dalkaas ku yaala si ay u ogaadaan dhaqaatiirta dalkaas ka soo baxayso inay yihiin kuwii xirfadda rasmiga ah yeelan lahaa marka arrintaas waxa sameyn kara waxay tahay waa medical and dentist board marka ana mid aan ordeen ma ayna sharci diidana sharcina u baahan bilmatalan hadda private baan leeyahay private ka leeyahay mid ila mid nin magacayga qaata ayaa private ka soo horjeeda furtay doctor biday la baxay anna doctor biday la yiraahdaa marka bukaanka soo aad asagu uu tagaya aniga uu yimaanaya hadda war magaca maxaan ka rabtaa ilaa ma taqaan magaca ma iskale wax sharci xaqiina helo u baahanahay marka sharciga anaga u baahanahay waxaan u baahanahay sharci in la sameeyo la sharci inuu noqdo mid ma taqaanaa ay taqaatiirtu controliyaan ay sameeyaan oo la wado aad u fiican marka anaga mid aan danaynaa waxay tahay in sharcigan la sameeyo sharciga waa fiican yahay laakiin wuxuu u baahan yahay in si fiican looga baaraandego oo medical board and dentist la suubiyo kaas oo dhaqaatiirtu controlay miinad ahaan iyo shaqo ahaan waxay qabanayaan way dhaqtarkan gafku galo waxa ogaan kara qof kale oo xirfada aqoon u leh marka anaga mid aan danaynayno gudoomiye aan socon waxay tahay in sharcigani dib u eegis badan lagu sameeyo medical and dentist board ka la suubiyo aad looga shaqeeyo anaga hadda waxaan aan ka tirsanaa jaamacadda Banaadir waxaan urmud kulliyadda caafimaadka waxaan soo saarnay 722 dhakhtar ayaan soo saarnay oo jaamacadda ka soo baxday walaalkii maanta wuxuu la mataqaana kun dhakhtar xataa ma joogto jaamacadda kaliya waxay soo saartay 722 dhakhtar soo saartay waxay u baahan yihiin regulation intaas oo kale waxa soo saaray jaamacadihii kale oo dalka ka jiray ayaa soo saartay marka anaga dadkan soo saarnay agaasimaha waxa kamid ah taqaatiirta Dr. Cabdirasaaq oo wuxuu ka soo baxay jaamacadda Banaadir ka soo baxay waxaan rabnaa in regulation kaasi lagu dhaqmo oo dadka ay shaqeeyaan loo sameeyo wasaaradda anaga waxa weeye waa wasaaraddeena weeye adduun kasto wasaaradda caafimaad bay leedahay wasaaradda caafimaadka barnaamijka wuxuu yahay policy-ga ayay mas'uul ka tahay oo regulate garaysaa laakiin ururka taqaatiirta in looga shaqeeyo ama agsintii walaal garabkaaga fadhiya magacaygu waxa waa Dr. Umar Sheekh waxaan ahay dhakhtar oo ku soo takhasusay cudurrada ilkaha jaamacadana waxaan ka ahay macallin marka ugu horeyso kulliina waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tan kale waxaan u hambaleynayaa gudoomiyaha oo baarlamaanka Professor Jawaari maxaa yeelay dood badan ayaa jirto doodiina mataqaana wuxuu ku soo gabagabeeyay in la abaaro waxyaabihii mataqaana oo qodobadii muhiimka ah oo anaga aan ku wada shaqeynay marka ugu horeyso muxuu ahay wasaaradda caafimaadka iyo dadkii sharcigan soo sameeyay ayadoo waxba jirin shaqo oo muhiim ay qabteen muddo dheerna way geliyeen juhdi badan way geliyeen anaga marka dad manihiya oo mataqaana iska soo horjeeda oo diidan sharciyada wadanka ka jira in la sameeyo regulation iyo waxyaabo mataqaana oo dadka Soomaaliyeed oo aan mataqaana ka qiimo yareen dadka kale oo wadamada kale adduunka ka jira oo dadkoodii mataqaana u sameynaya waxyaabo oo badbaadiya maxay waxyaabo meesha la ordaayo oo la rabo in la sameeyo waxa uu dadkii sidii ku nabadgeli lahayn caafimaad ku fan ee weli lahaayeen muxuu ahay loona badbaadin lahaa wixii mal practice ah oo dad kale oo la imaanayaan maxay cudurro fara badan waxa jira oo nitrogen yiraaho oo dhakhtarka u geysto muxuu ahay bukaanka intuu daaweyn lahaay bukaanka dhibaato u keenaya marka sharcigan ay noo soo saareen aad iyo aad maaragtay anaga waa u mahadnaqaynaa maxaa yeelay dad waxa soo bilaabay inay wax keenaan oo ka soo shaqeeyay lama dagaalsani waxa oo iska horjeeda ah mataqaana critical doo jireen critical constructive wax yiraahdo jiro oo critical wanaagsan oo anaga mataqaana oo wax lagu habeeynayo wax lagu hagaajinayo sidaas awgeed hase yeeshee muxuu ahay qodobka shanaad oo sharciga xirfadayaasha caafimaadka ayaa xoogaa wuxuu keenay mataqaana delegation maxaa yeelay meesha mashaakilaadka waaweyn oo meesha ka jira oo caafimaadka weliba waxaa la iloway mashaakilaadka ka jiro dentistaha dhinaca dentistaha ka jiro aad u fara badan yihiin
dad badan oo mataqaana xirfad aan u lahayn weligood dugsi sare xataa aan ka soo bixin ayaa meela furteen oo aragteen waxyaabo quruxda badan oo meelaha ku dhigsan moogtahay oo meelaha mataqaana dadka wax yeelaynayo oo dhibaatooyin u geysanaya anaga marka hadda waxaan nimid dad badan soo laabtay oo aniga aan kamid ahay aniga takhasusaan leeyahay bachelor oo waxaan mataqaana inkastoo gudoomiyaha uu yahay sheegay seniority iyo waxyaabahaas yaa lagu faanin haddana mataqaana bachelor of medicine oo waxaan ahay Somali University Italy waxaan ka soo qaatay specialization oo maxillofacial surgery iyo mataqaana stomatology leader marka dhaqaatiir kale oo dhalinyaro soo baxday oo jaamacada Soomaaliya ka tirsan soo baxay dhaqaatiir kale oo banaanka ka yimideen waa soo badanay marka waxaan aragnay in ma aragtay markasta la leeyahay dentista ama cudurada oo ilkaha wax muhiimad weyn ay leeyihiin wadanka ma jiro waxaana la geeyay markii laga hadlayay health caafimaadkii mataqaana 2013kii booska sagaalaad la geeyay ayadoo aan ogahay inay jiraan waxyaabo badan oo dadka laga hadlaynayo oo mataqaana oo aad mataqaana oo important u ah tan kale waxa waaye markii oo wuxuu ahay oo aniga aan nimid waa isku nimid waa wada hadalnay markaan aragnay xaaladda sida ay mataqaana ay tahay waayaabna maxay aniga shaqadeeni oo aniga aan qabsadeen dhalinyaro soo noqday waxa danteena dadkeena inaan u shaqeyno oo aan anigana aan mataqaana wax aan soo baranay oo wax ka helno laakiin booskii wax aan ka shaqeynay dad badan buuxiya haysto marka aniga nafteena mataqaana shaqo la'aan inaan ugu dhacdo marabna oo dadkaas mataqaana hawsheena inaga xoogaan intay tan kale markii oo la isku daro marka dhibaatooyinka ilkaha iyo dhibaatooyinka caafimaadka oo u medicine oo dhinaca kasto haddii marka soo qaado dad ajnabi ah meesha mataqaana ayagana mataqaana wax ka leeyahay oo aan ogeyn meesha ka yimideen kulli isku daro marka waxa waaye waxa jiro marka mali strain wax yiraahdo dhibaato weyn ayaa jirta marka mali strain waxa yiraahdo strain remedy ay leeyihiin macna waxyaabo xoog leh oo loogu hortagay leeyihiin waxyaabahaas marka waxa kamid ah iyadoo si oo mataqaana toosan dhaqaatiirta ay si gooni ah iyo dentistayaasha anaga hadda ku darsoomay dentiyaasha kulliin dhaqaatiira wadanahay marka hore runtii aniga ambitious ahayn waxaan rabnay aniga urur gaar ah oo dental aan samaysan hadda marabno maxaa yeelay kisti marka aragnay sharciga marka aragnay oo xataa aniga nala soo magacaabin waaba baqnay marka aniga waxaan dhinaca diinada mataqaana la xoogaya bal isku aru dhinaca la soo maray mataqaana ayaan rajo kale inaan xubno aan ka helno mugtay marka waxaan aniga rabnaa insha Allah in oo mataqaana dentistayaasha iyo dhaqaatiirta caafimaadka oo meel badan oo wadamada oo mataqaana oo aniga waxa ku soo baranay Afrikaanka ururay oo urur goona sameystay waxyaabo badan loo dilgaareeyay sida abukaata uu sheegay waxyaabo muhiimka loo dilgaaray iyo waxyaabo kale inaan independent aan noqon autonomous aan noqon laakiin taas macnaheedu waxa waaye ayadoo mataqaana xishmeynayna mataqaana wada shaqeynna naga dhaxaysa qasab dawladda iyo baarlamaanka waxa kuleyba imaanaysa in oo authorization dhaqaatiirtaas iyo constitutionkaas ee dawladda ay ansixiso markii oo qodobada iyo waxyaabo wanaagsan lagu soo diro marka mataqaana gudoomiyaha oo naqaya wasaaradda caafimaadka oo mahadnaqaya dad waxaana wax raba inay wanaajiyaan ma dagaalsani dhaqaatiirta oo soo ka soo shaqeynay waa ma dhacelina dhaqaatiirteena waaye marka isku meel aan nimaana oo wada shaqeyno si dadka dantiisa uga fikirno waa salaamantii magacayga waxaa la dhahaa Dr. Usama Ismaan Aadan waxaan ka mid ahay dentistayaasha dhaqaatiirta ilkaha waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka ururka dhaqaatiirta ilkaha ee Soomaaliyeed marka ugu horeysa waxaan rabaa horta inaan comment ka dhiibno ka dentist ahaan Dr. Umar waa naga horeeyay oo ka hadlay arrintan wasaaradda qodobkan shanaad oo ay uga hadashay aasaasidda councilka iyo inta uu noqonayo meelaha uu ka imaanayo waxaa noo muuqata annaga ka dentist ahaan inna laga boodayba gebi ahaanba waana laga tegay hadda la yidhi waa ku jirta laakiin hadda waxaa naloo keenay waraaqo aanay ku qornayn dentist inuu ka mid yahay dadka laga soo xulaayo dadka ururkaas ka qayb laga soo xulaayo dad ka mid noqon lahaa marka ugu horeysa horta waxaan jecelnahay annaga ka dentist ahaan in nala siiyo ahmiyad gooni ah oo ah yaana siinaya wasaaradda waan la hadalnay waan u tagnay agaasimaha loo tago waxaa la yidhi dentistaha waa dhakhtar ka mida dhakhaatiirta adduunka ka jirta wuxuu leeyahay association gooni ah waxaa fiican in xitaa wasaaradda dhexdeeda ah in looga sameeyo xarun
ila al'aankan wasaaradda dhexdeedana kuma lihin gabi ahaanba koomaan ku jirnaa annagoo dhan ilaa haddana koomadii waa ku jirnaa hadday saas noqoto haddee waxay noqonaysaa nin walba inuu biinsada iska qaato oo nin walba meel furto oo halo isdhex yaaca ay noqoto ururkii SYL maxay ku bilaabeen waxay ku bilaabeen baahi jirtay oo waxay arkeen in dhalinyarada ay qaban karaan maamulka inay wax hogaamin karaan inay wax sixi karaan annaga cilmigii waan soo baranay 6 sanaan soo gelinay waqti oo ay lacag nooga baxday qaarkood ay ku soo dhigteen scholarship meeshii la rabay in laga faa'iideysto oo aqoontoodii la dhageysto yaa waa cidda kale la dhageysanaya cidda kale la dhageysanaya oo laga dhageysanayo dantistiyaa waay haddaana annaga ahayn marka waxaan aad u jeclaan lahaa in wasaaradda anaga wasaaraddeena ay tahay wasiiradda laga bilaabo agaasimayaasha ay ku xigaan wax xumaan ahna kama sheegayno annaga laakiin walaalayaal waxaan jecelnahay inaad noo tixgelisaan maxaa yeelay daandiistaha in la tixgeliya oo sharciga lagu daraa annagay dan noo tahay waxay dan u tahay bukaanka Soomaaliyeed waxay dan u tahay wadanka qarannimadiisa iyo siyaadadiisa meelo badan oo wadanka dibadiisa anaga waa tagnaa waxaan aragnaa Somali Dental Association oo ka mid ah shirar ay qabanayaan oo isugu imaanayaan ururada waxay leeyihiin miitino gooni ah waxay leeyihiin assembleyaal isugu imaanayaan taas waxa sabab u ah in wasaaraddu ay daba joogto ay riixayso ay taageerayso marka aad aan idinkaga mahadcelinayaa mehnad gooni oo professional waxaan uga hadalnaaba hadda ma wataalaba dhakhtar waxaa laga hadlayaa medical practitioner iyo dentist iyo sharcigan meesha aan ka gelahayn wasaaraddana wasaaraddeena wayna ahaan jirtay wayna ahaan doontaa dagaalna ma jiro maasha inta la isku qabo oo ka tahliilan maxaa la yiraahdaa kafaala saaraday ankal hortagna walaalayaal gudoomiyana aan deeno assalaamu calaykum hadalkayga ku badiyo marmo wax badan baa laga hadlay koowaad waxaan rabaa inaan ka hadlo ujeedada dhakhaatiirta iyo codsiga waxyaabaha soo gudbinayaan waxa weeye sida ka muuqata shuruucda meesha ku qoran waxaa laisku hayaa waxa weeye waa unugii ummaddan ay ku socon lahayd iyo qaabkii sharcigooga loo dejin lahaa mid waxaan ku adeegsanahay dhammaan dhakhaatiirta iga soo horeysa waxaa muhiima in la helo sida caalamka ka jirta Somali Medical and Dental Council markaan leenahay council waa meeshii loo noqonayay association waa gooni waxa weeye associationku inuu mid kastaba association lahaanayo waa muhiim laakiin council loo noqdo in la helo waa muhiim waayo associationka مثلا for example dental kale markaan ka hadlayno wuxuu association yahay inuu isagu habeeyo qabto waxyaabaha maxay ahaydeen isaga xuseeyaan laakiin councilku waa waxaan ka midaysan lahay dhammaan caalamka oo dhan marka councilka in la helo oo qodobkaasi la tixgeliyo oo sida abukaatuu sheegay dhakhaatiirtu sheegeen in la tixgeliyo ayaan iidsanahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu 3 sano 4 sano mar laga joogo dhakhaatiirta qaarkood way fadhiyeen oo fagaarooyin aan ka dhahay waa idin baryeennaa kaalay wadankan caafimaadkiisa waa baylahe meelaha aan fadhina fariista oo wasaaradda imaado oo la taliyaal noqdo oo agaasimayaal noqdo dan baa annagana keentay muhiimadda wasaaradda caafimaadka shaqo ma qabato tallaabo ma qaado ilaa dhakhaatiirtay la tashataa iyo umuradooda inkastoo uu gudoomiyaha dhahay siyaasadda caafimaadka ma aana arkin dukumiintiyada badan ee wasaaradda soo saartay waxaa loo kontrakta outgareeyay dhakhaatiir Soomaaliyeed jaamacadda Banaadir ay ka mid tahay jaamacadda Soomaaliya ay ka mid tahay professor Khaliif Bilow ka mid yahay mudnaan weyn oo mug iyo miisaan leh ay dhakhaatiirta nagu leeyihiin haddii ay yihiin maxaa la dhahay professoradeena haddii ay yihiin juniorka waxayna ka mid yihiin lafdhabarta adeega caafimaadka sharcigaana marna ku talagal iyo ku talagal la'aanba kuma aysan jirin in hoos loo dhigo miisaanka iyo maqaamka uu dhakhtarka leeyahay intaas markaan dhaho mudane gudoomiye annaga wixii naga tabar iyo taag ahaa oo aqoon iyo cilmi iyo talo iyo geed kor iyo geed hoos u fariisanay baarlamaanka horyaala golaha wasiirada la geeyay waa laga kor akhriyay waxaan aad uga xumahay dukumiintiyadii hore tirada badnaa ee wasaaradda ee golaha wasiirada geysay aan lagu soo gaarsiinay
waxaan ku dadaalaynaa inaan wasiiradda oo aan maanta safartay fariintaas gaarsiiyo maxaa yeelay muwaadinka soomaaliyeed aan ka mid ahay maanta loo doodaayo waxaan 4 sano kusoo dhigtoonaynay waa gocanaya haddii la idhaho lama arkin lama yaqaano iga dulqaada intaas inaan dib ugu laabano ayadane oo aan soo gaarsiino meeshii ugu muhiimsanayd war helaa tala hela sharcigan waxaa qoray khubaro soomaaliyeed waxaa la taliyaalka ahaa looyaro wasaaradda cadaaladda ka tirsan waxaa dib faafreeb lagu sameeyey wasaaradda cadaaladda inta aanan la keenin golaha wasiirada halkaana aan la keenin ismana diidana qodobada inay dhakhaatiirtu ay independent ahaadaan GMC ahaadaan way ku xusun tahay waxaan jeclaan lahaa inaan 2 qodob oo aad u kooban kaga laabto dhakhaatiirta waxay sheegayeen balanta wasaaradda ay gashay coverka buugay ka muuqataa ma garanayo waxa aan ku ballan furnay haddii aysan dhacdo inaan wax ku ballan furnay maxkamaddii sida doctoresa Caaisha ay sheegtay oo aan aad u ixtiraamo maanta waa joognaa maxkamaddii waxaan ku ballan furnay hana la qabto annaga waxaan nahay marxaladan hadda aan taagannahay adeegayaal tana qoraad ah oo technical ah oo guddiga adeega bulshada ee baarlamaanka farsamayaqaano ah meeshaan ka bedelo waa bedelaynaa meeshaan ku dareynaa sidii maalinka dhaweyd kulanka SYL aan ku yeelanay aan sameynay kulankii hore Jazeera aan sameynay waxaba yaraatay mushkilad ah ma jirto muhiimadeena waxa waa in wadankan sharci caafimaad ah oo kala helo waan iska qabanno mid tusaale hadaaya aan soo qaadanay ninka ajnabiga ah ee dokumentigiisa intaan qaadnay aan wadan kala geynay dhakhtar ma ah la yiri haddana aan wax ka qaban weynay waxaa jira fasaad akhlaaqi ah waxaa jira fasaad mihani ah waxaa jira fasaad aad u xun wadankeena annaga ay macallimiinteeda ayuu noo xilsaaran yahay runtii waxa muhiimadeena ay tahay sharcigan oo hirgala oo dhaqan gala regulatory board-ga dhaqan galaya ciduu doono ha noqdo maxaa la dhahay dowladda Soomaaliyeed oo baarlamaanku hay'ad sharci dejinta ah ayuu u yaalaa haddii ay council dhakhaatiir ka wada kooban ka dhigi lahayd haddii ay managerial u dhiibi lahayd haddii ay lawyer u dhiibi lahayd haddii askar iyo military u dhiibi lahaydba bukaanka Soomaaliyeed badbaadi raba doctoresa Caaisha waxaan aad u jeclaan lahaa inaan ku sheego anigoo shakhsiyan ah waxaan ahaa dadka tagay maamul goboleedyada oo garoow tagay gaalkacay tagay markii galmudugtii hore jirtay hindi sharciyeedkan oo jaamacadda gaalkacay kaga qayb qaatay maamuladii kale gadaal ka soo dhismayne qaar baa xamar loogu yeeray qaarna magaalo loogu tagay minutidii aan kula wadaagi karnaa sawiradii aan kula wadaagi karnaa daliil kasta kula wadaagi karnaa waxaana diyaar u nahay inaan ku siino in documenti oo minutes ka ahaa shirarka aan la qaadana maamul goboleedyo haddii ahaan lahaadeen professional processkii uu soo maray maalinna la isma diidanayna xirfad iyo aqoon u baa la isku daray taageeradiina rabnaa aqoontiina rabnaa cilmigiina rabnaa wasaaradda caafimaadka way aragnimadiina rabnaa hogaamintiina rabnaa inaan hogaamisaan rabnaa mushkilad anaga dhakhaatiirta ku qabna haba yaraatay ma jirto intaasna waa inta aan fagaaro kasta ka sheegi jirnay maantana aan baarlamaanka maqlaayo wasaaradda caafimaadku idinkama weyna waxaan jeclahay inaan wasaaradda caafimaadka wadanahay wabilaahi tawfiiq waxaan aad ugu faraxsanahay kadib markii discussionka uu aad nooga baahay markii hore inuu hadda isu soo dhawaaday principal mabda ahaan waxaan isugu soo biyaarortay arrinta in lagama maarmaan ay tahay in loo baahan yahay sharci haddaan qodobkaas ka bartiireeyo horena waa u niri haddana waa ku celinaynaa waxani waa framework ma ahan wax gaar loogu sameeyey wax specificin ahna ma aha ujeeddada aan frameworkigan loo sameeyey waxay ahayd inuu ahaado inclusive all professionalska ay isugu tegayaan mar haddii aynan samaysan karin 17 firqadood oo sharciya aynan samaysan karin horta qodobka number 1 aan rabo inaan ka dhawaajiyo waa midkaas marka waa framework inclusive ah cidna aan laga tagayn all professionalskana ay iskula jirayaan annagoo arrinkaas ka duulayna waa ognahay adduunyada waxaa ka jira labo mid waa associationka professionalska ay leeyihiin tusaalahaan baan ka soo qaadaday waa laga dhawaajiyay ingiriiska oo kale waxaa ka jira BMA wax la yiraahdo ama British Medical Association oo ah sidii SMA da aan leenahay Somali Medical Association oo dhammaanteen dhakhaatiirta meesha joogta aan ku wada fadhina halkan xubnana kana aniga waan ka runtii midna waxaa la yiraahdaa GMC ama General Medical Council oo ah
midna waxaa la yidhaha GMC ama General Medical Council oo ah regulatory body oo executive regulatory body ah oo governmental oo taas waxaan u leeyahay waxa weeye waa labo kama wado commissionski independent ah dastuurka qorna kan ahaado laakiin inuu ahaado executive governmental regulatory body oo ay ku wada jirayaan ururada aan sheegayno shaqadooduna ay tahay mihnadan caafimaad inay regulate gareeyaan waxa aad looga dhawaajiyay medical board medical council laakiin waa one of them that's one of them waa qadarinayna dhakhaatiirta dhakhtar baan ahay waan isla wadan lahay waana ogol lahay inuu noo jiro kaas waana ka ugu horeeya number 1 ka ah that's why marka qodobka shanaad aan ka hadlayna maanta oo dhan aad loogu celceliyay markaan hoos u soo degnay waxa laga fiirinay ay ahayd representation kooda iyo inta ka imaanaysa iyo sida uu yahay iyo powerka aan ku dhaxlahaanayno ururkaas annaga ka wasaarad ahaan waa qirsannahay dhakhaatiirtu inay lead noo yihiin waa ku ixtiraamayna shaki kuma jira taas iyaga inay leadka lahaadaan way laakiin ma exclude garayn karno all other professionals weelkana ma wada qaado all other professionals hadda waxaad maqlayseen dentalkia laga dhawaajiyey berri waxaa imaanaya nutritionist saa dambe waxaa imaanaya public health maalinta kale waxaa imaanaya lab technician pharmacist and so on laakiin mid aan leenahay waxa weeye framework aan dejinno maxaa yeelay medical councilka aan jecel lahay oon rabna inuu wax noo qabto keligii ma istaagi karo stand alone wax ah ma ah wuxuu noqonayaa part of frameworkkaasuu ahaanaya kaasaa u noqon doona regulatory bodyga waddan u ahaan doona laakiin inay dhakhaatiirtu lahaadaan ururkooda oo shu'uuntooda iyaga u regulate garayn doona qodobka labaadeen raba inaan clear ka dhigo waxa weeye kan waa framework markaan leeyahay all criteria iyo shuruucdii iyo wixii la rabay in laga hadlo way dhiman yihiin مثلا meeshan wuxuu ka hadlayaa facilities in la regulate gareeyo maxaa facility noqon karo maxaa health center ah maxaa hospital ah criteria iyo shuruud bay lahaan doonaan waxaas oo dhan waxay hoos imaanayaan framework-kan hoos imaanayaan dhakhtar marka aan leenahay specialty kala duwan uu lahaan karaa takhasusaad uu lahaan karaa experience uu lahaan karaa isagana hoos imaanaya marka waxaa sadeeyay inaan degdegin implementation-kiiyo inaan u gudbin framework-gan guud aan isugu nimaadno midkaasi hadduu wax cuyuuba leeyahay diyaar waxaan u nahay qodob hebel iyo qodob hebel iyo qodob hebel qof aan haysan ma jiro horena waa loo wada helay haddana waxaan diyaar u nahay isagoo software ah in hortiina isla guddigu ay qaybiyaan nin sorry ها توسوي نقطة النظام بقى تولي علي تمسك مركز اسمه وافقسني الله سكت وين marka haddii framework-kan aan marka hore isku waafaqsan haddaan framework-ga diidanahay oo leenahay annaga haddaan dhakhaatiirnahay kan waa ka madax bannaannahay caafimaadkan waa ka duwannahay wax special budo gaar u tumanannahay waa goonideeda markaas oo annaga aynan ka tirsanayn health professionalska aniga waa ku jiraa haddiise aan ogolnahay inaan health professional nahay framework-ga guud ee shaqaale kastoo caafimaadoo soomaaliyeed uu ku abtirsado markaas inaan ku abtirsanno ayaan markaas u arkay هدايا waxaa laga dhawaajiyay koobiga isaga ahay waa ka xumahay in arrimahaas la tirsado koobigii ay wasiiradu qaybiso qof walba la siiyay maalintii aan xafiiskeeda ku wada hadalay waa la heli karaa waxaan ogolahay inaan koobigii mar labaad distribute gareyno koobigan meesha yaala iyo kii la qaybiyay hal la isku fiiriyo haddii wax farqiya ku jiraan oo kadib wax la bedelay waan ku gardaranahay waana ka garbaxayna taasna waxaan ka dhihilahay intaas aan rabaa ka cadeeyo طبعا framework-kan wuxuu noqon doonaa mid oo shaamil ah oo all ururada ku jiraan aan ugu qabo 17 urur ee aan meesha ku xusnay oo professionals ee kala duwan inaan 17 qawaaniin u sameeyno oo 17 jeer hor keenno baarlamaanka inaan hor keenno practicalna nooma ahaanayso waxaan jeclaan lahay marka guddigu inay naga ogolaadaan iyagoo tixgelinayo umuurahaas oo dhan wax alliyaal wixii qodob hebel qodob la yiraahdo hadduu jirane inaan ka jawaabno diyaaraan u nahay oon ka garbaxno waana mahadsantihiin shukran gudoomiyahan siinaya waa soo gabagabeynaa ralla dhammaantiin wayna salaamaya salaamta islaamka aynu ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan aniga hadal badan ma dhahayo hadalkaan dhihaana cabdirasaaq ayara taabtay guddigeena haddaan nahay guddiga arrimaha bulshada maamul goboleedyada maxaa dhahay qaybtood waan ka warhaynaa puntland oo kale guddigooda arrimaha bulshada way fadhiisanay sharcigana bay iila yimaadeen oo ay tuseen oo hayeen
maalinkii waana isla aragnay wax dhibana markaa kamay qabin waa doctor Sacaasho wuxuu dhahay baan rabaa inaan u bayaaniyo 3 wiil ka hor waxaan joogay Jubbaland arrin shaqo u tagay wasiirada dhalinyarada ee sportiga raacay maadaama guddigaas wuxuu aan qayb ka ahay waxaan la kulmay oo meesha ku wada kulmay guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka Jubbaland gudoomiyihiisa iyo waxaan aragnay xoghaynta waan weydiiyay because of mas'uuliyad baa iga saaran waxaan weydiiyay sharciga waxbarashada inay haystaan iyo sharcigan oo labaduba anaga hor yaalaan way ii sheegeen sharcigan inay hayaan waxaan weydiiyay waxyaalo ay ka qabaan oo wax ay hadda taagan oo aan maadaama ku hawl jirno aan ku dari karno waxay dhaheen waan akhrinay wax dhiba kama qabno marka waa labada meelood oo aniga aan labadaba aan la kulmay aan arkay dadka ka tirsanaa arrimaha bulshada ee guddiga baarlamaanada anaga wasiirada warmahayno iyo agaasimayaasha iyo waxyaalaha kale laakiin muhiimadda waxaa hay'adaha nuquseeya inaan wax ka ogaano annaguna dhammaantiin waxaan matalaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan matalaa waxaan matalaa maamul goboleedyada dhan baan matalaa dhammaantiin dadka halkan jooga marka anaga ka taxadarayno oo ogaarayna rabnayna ogaano inay meelaha dhibku ka imanayaan aan iska ogaano intaan aan ka horgeyn aan ku wareejinay gudoomiyaha maasantiin aan warkayga ma badno waxaan dhageysanay dooda aadaan u fahmnay waa garan karnaa أنا إلى وزارة اللي معنا أنا إلى أصحاب كانوا يسوون جيد بهرت أنا كم وقت وأنا قابلتها وضل أن نقارن ونقارن بين هذا أنا رأينا أن الشيء ودن كان ضوي لواتن سنة البوكسين يهي intaas dadkii joogay kusoo shaqeynayay dadka halkan inta badan inta aan aqoonin oo yaryarna ayagaa noo yaqaano ayagaa soo saaray waxaan leeyahay wasaaradda iyo guddiga arrimaha bulshada waxaan leenahay dhakhaatiirtan waa in la xoojiya dhakhaatiirta ayaan lagu abaaldarin dadkan wadankan waa soo joogaan 27 sano meel oga bixin wadankan dhextaan waa garan karaa dadka yani xaaladii ay soo mareen iyo waxay ku soo jeedeen aad u fahmi karaa dad hadda kooyta iman marka waa in la karaameeyo dadkan warkooda waa in la dhegeysto waa in la fahmaa wax ay sheegayaan ayaga fahmi wayso ما قرن كنا بكرة كلام فهم دونتان أنا بقى صعبت أول نقارنا ضد كرامة الهواية وعرنا ضد وضن الصوت التوى يقول بكان جوي عكسي يول يخطر يوه بالبصوم مريض هذا فهم مركوا إن كرامة ولا سيو وإلا كرامة ما يشان واحد كلبوه ولا كلبوه مجرى أيقنا iyadoo wasaaradda jirin ayaga wasaaradda ay shaqeynayaan marka wasaaradda aan jirin haddii wasaaradda ahay hadda karaameyn wayso maxaa karaameynaya waa in karaamadooda la siiyaa waa in la ixtiraamaa dadka ayay waa ognahay waxay soo mareen waxay waddanka soo joogeen wasaaraddu boolicigii dowladda ay haysaa waa sax in la ixtiraam ayadana meeshu way ku jirtaa haddii dowladnimaa rabna taas waxaa waaye ma filaayo dadka iyadoon dowlad jirin ka soo shaqeeyay hadda ma filaayo inaysan karaameynaynin haddana dowladda kama filaayo intaas waxaan rabaa inaan idhaahdo oo loo baahan yahay karaamadii iyo mudnaantii ay lahaayeen in la sii dhaqaaqiiqo hay-ad kasta oo waddankan jirtay burburka markay uu jiray qof kastaba in la karaameeyo meesha uu kaga aadan waxbarasho ahaado caafimaad ha ahaado ganacsada ha ahaado qof kaloo shaksi ahaado waddanka intuu burbursan dadaa ka soo shaqeynaya oo jooga isgaarsiin ha ahaato nooc kasta
marka dadka ayaga waxay u baahan yihiin in la ixtiraamo la karaameeyo la qiimeeyo adiga dowlad ma haysan ayaga dowlad ku ah marka waa lagu qasban yahay dadkaas in la karaameeyo waxa ay tabanayaan waa in laga qanciya waa arrintaas waajib u ah marka waxaan leeyahay dowladaan ah intaad tidhaahdaan xoogyaan loo sheegay dadka waa in la ixtiraamo la karaameeyo adigoo dowladnimadii wada haddana waxaa laga baahan shaksiga aad mas-uul ku tahay inaad karaamaysa lagaga baahan taas waa mid aan dhihi lahaa kan kale waxaan dhihi lahaa dhakhaatiirta hal su-aalaan weydiina eeba maasaygadaan su-aashayda waxay dhakhaatiirtiina waa ina naqaano adinka intaan aqoonin oo yaryarna idinkaa soo saaray waddankaan dhakhaatiir badanaad timaado annaga aan aqoonin oo aan garanaynin wax talaho aad ka yeelateen ma jirto dhakhaatiirtan waddankaa imaanayo oo meelaha iska furnaya dhakhaatiiraan nahay leh annagu ma naqaan shahaadada haddayna tusaan hataa ma kasaynin shahaadadu inay sax tahay inay qalad tahay marka su-aashaas waxaan dhihi lahaa adigoo iga raali ah haddaad tala ka yeelateen dhakhaatiirtan waddanka iska imaani oo nin walba meel iska furtay ninka cadba loo malaynaya inuu dhakhtar yahay oo anigaan ka dhakhtarsana kuwa waxaa jira anigaan ka dhakhtarsana oo markii gibilkooda cabda arkay inay dhakhaatiir yihiin loo malaynayo oo dadka laayna arrin khatar aan ku dhex jiro arrintaas waa arrin u baahan si gaar in loo fiiriyo markaan dhakhaatiirta arko waa garan karaa dhakhtarkan waa aqaana anigoo kalsooniya ku qabo laakiin ninkan korka cadoo iska yimid meeshaan meel furana muxuu yahay yaa yaqaan maxaa lagu og yahay arrinkaas arrin waxaa waaye khatarteeda leh marka haddaad talo hor ooga yeelateen waa mahadsantihiin haddaad hore ooga yeelan haddana ooga yeesho waana mahadsantihiin intaasaan dhihi lahaa wada shaqayntan waxaan u malaynayaa in si fiican u socoto hadda ani ima muuqdaan oo borobaleen ma jiraan waxaa waaye aan isla tutoosinay waa mahadsantahay gudoomiye shukran horaan waxaan jeclahay inaan codkayga ku biiriyo dhammaan inaan u mahadceliyo magaca golaha shacabka soomaaliyeed aan ugu mahadceliyo dhammaan takhaatiirta iyo macallimiinta oo tacliinta sare oo haddii la ku rooyahay muddadii dalka burbursanaa daboolay yani waajibaadkii laga rabay dowladda dhexe ay dabooleen waa ku ammaanan yihiin waana ugu mahadcelinaynaa abaalkiinan allah gudi kara magaca shacbiga iga ku duuma mahadcelin gaara i qadarin aan idin hayno oo aan rajaynayno inaad maaragtaa meeshii kasii wadaan mudanayaal waxaa hadda doodayna maanta ay ku fadhiday sharciga kan laakiin guud ahaan waxaanu ka hadalnay oo mabda ahaan aan isku raacnay in loo baahan yahay in muwaadinka soomaaliyeed loo damaano qaado caafimaad sax ah iyo dadka daweynayo oo xirfadahooda iyo mihnadaha ay ku shaqaynayaan la hubiyo in ay yihiin dadkii oo meesha u qalmaayay ay yihiin sida caalamkaba u qabo isla mar ahaantaasina shuruucda aan dejinayna inay noqdaan shuruuc oo la socon kara wadciga maanta iyo qarniga hadda maanta aan ku jirno iyo dalalka aan la noolnahay caalamka ah oo xiriirkoodana ay lagama maarmaan tahay sharciga waa la dejinayaa ilaa insha allah waana soconayaa waana akhrintii labaadu marayaa sidaad la socotaanba alla ka sokow golaha shacabka baarlamaanka cid ka sarraysa male allah ka sarreeya keliya marka haddii ay sharciga tahay mid oo damaano qaadaya mid u roon dalkeen uu yahay waa la socodsiinaa laakiin idinka waxaa idinka baahannahay walaalayaal annaka ma naqaano wasaaradey ma naqaano annaka cilmigaan dakhaatiire annaka cilmigaan ma naqaano xildhibaanaan nahay keliya waxaan rabnaa muwaadinkaas inaan damaano u qaadno ahlu dikri idinka ahee waxaan idinka rabnaa waxaa u roon dalka inaad u dejisaan kow labo haddii qodobada hadda meesha ku qoran ay yihiin qodobo oo si kala ah anigu waxaan soo jeedinayaa in horta markuu horeysa asagoo softa haddii lahayo baalka matrix waxyaalaha laga sameeyo qodobada say u qoran yihiin aragtida sida ay tahay oo loo bedelayo qodob in loo soo maro qodobkan saan uu qoran yahay maya saanaan u baranaa ama waxaasu cillad ku leeyahay in sidaasna loogu keeno cilladiina laga dhaadhiciyaan rabnaa koo labo ereyadan laisla marayo bal xoogaa yar waxaan dib ugu noqdo dooda takhaatiirta oo ay yidhaahdeen waxaan u baahannahay golo madax bannaan inaan noqonno magaciisii ur madax bannaan aan noqonno oo arrimahan ka tarinay wasaaraddana waxay tiri maya arrintaasi meel gaara ma noqon karta waa inay wasaaraddii haysaa kelmadaha ad isticmaalaysaan waa ingiriisi waa board yani
commission annaka nooma kala baxsana af soomaaliga weli ma fariisan sida ingiriisiga carabiga ay u fariiseen ma aha guddi madax bannaanna waa la yaqaanaa guddina waa la yaqaanaa labadayba guddi ayaa la yidhi laakiin kuwa waxaa lagu madax bannaani loogu daray annaka waagii hore waxaan soo jeedinay in guddina guddi la yidhaahdo commissionskana xilqaan la yidhaahdo hase yeeshee weli ma hirgelin laakiin goorteeda hirgeli doontaa xilqaan in xilqaan la yidhaahdo xilqaan madax bannaan in la yidhaahdo guddiga laga bixi waayo commissionka waxaa weeyaan waa ka sarreeyaa guddiga xataa iskoolka yeelan kara guddiga aabayaasha aldhihi parents committee waxba guddi waa noqon karaa guddi ma madax bannaana guddi waxaa waye dad buu u jawaabaa waa la dhisaa hadda guddigan bulshada oo kale aad horfadhidaan waa baarlamaanka 275 uu wakiil yahay waxaa la wixii ay go'aan gaaraan waxa uu hoos tagayaa golaha guud buu tagayaa golahaas guud ayuu tagayaa ayuu u maqan yahay ma madax bannaana wuxuu u shaqaynayaa waa baarlamaanka kulankiisa guud buu u shaqaynayaa marka board waa jiraa example ahaan waa qabnaa مثلا waxaa ka soo qaadaa bangiga dhexe waa hay'ad madax bannaan oo xagga maaliyadda iyo marka siyaasadda maaliyadda ku shaqeysa haddana wuxuu leeyahay boardkaas u sameeya siyaasadda uu ku shaqeynayo wasaaradda maaliyadda ku sii kormeerta marka ma aha biciisa waa boardkiina waa yahay waana annaka marka dastuurka iyaga inta buu leeyahay urur haddaad tidhaahdo waa qabyaa haddaad fiiriso qodobka 16 iyo 23 haddaad fiiriso waa association waa urur waa la geli karaa waa laga bixi karaa cidna kuma qasbi karto inaad ku jirto cidna kuma qasbi karto inaad gasho waa urur ayaga ka macni gooni isu sameynaya laakiin markii ururka uu ka soo baxdana guddi uu noqdo ama madax bannaan laga yiraahdo guddi madax bannaan waxaa xeeriya 110 qodobka dastuurka qodobka dastuurka oo 110 aan idin akhriyo wuxuu oranayaa مثلا mabaadi'da guud weeyaan مبدأ جود وحياة جودين مدح بنان جود مدح بنان وهيئات كم مدح بنان حكومة أما حكمين سياسيين أودنا أولى هذيك سجى أقوم توضح الفراد اللي حريرة حوله هذا وقارها جود مدح بنان مركو كجر جود الشذا واجبات كيسي هو كل كيسي وإن أي كم مقطع إن كشقين أيو dareenka dhowrista xuquuqda aadanaha dimuqraadiyadda iyo daafurnaan marka 110 haddaad fiirisaan waxaad arkaysaa guddiyada madax bannaan shuruudaha laga rabo hay-adooda waxay tahay sababta loo suubiyana maxay tahay commission waxa weeyaan arrin loo baahan yahay xukuumadda aan fulin karin laakiin loo dhiibayo masalan waxaa ka soo qaadaa guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo axsaabta siyaasiga wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dejisay electoral looga waxa soo dhan sameeyay baarlamaanka ansixiya guddiga waxa magacaaba ansixiya xukuumadda soo magacaawda golaha wasiiradu soo wasiirka propose gareeya golaha wasiiradu geynaya golaha wasiirada waxay u soo dirayaan baarlamaanka qof uu ansixina maalintii ayaga ay ansixiyaan waxa way markaa toos wuxuu martaa u hoostagaya baarlamaanka oo laga rabo inuu mar walba sanad walba keeno magaciisa ayagana shaqada ka saari kara guddi madax bannaan xaalkiisa waa sidaas waxa weeyaan waxaa loo dhiibaya arrin oo ka duwan marka annagu intay joognaa ma guddi madax bannaan miya ma golaa ma guddiba ma wasaaradda hoostagaya mayuu ka madax bannaan yahay sideebaa u roon waa su'aalaha aan raba idinka inaad ka soo jawaabtaan xaggeebaa ku habboon in la dhigo bulshada waa u baahan tahay arrintan waa u baahannahay meel sakuuna ka taabana islaanta nyaanyada gadaysa arrintaa way taabanaysaa marka taa waxaan u fasiray waxay tahay waxa weeyaan in wixii mabda'a dastuuri aan yaala haddii aad tidhaahdaan saanaan rabnaa dhooroon ballana idin qaadaa golaha shacbiga wuu idin ansixinaya idinku wax un fiican noo keena oo arrintan ay ku shaqayn karto xataa qodobo cusub soo qora mushkilad maaha haddaaba isku raacno waa la ansixinaa waa la socodsiinaa laakiin wasaaraddana magaciisi maamulkeeda yaa lagu talax tegin oo siyaasaddii guud ee maamulka caafimaadka ayadaa u mas-uula takhaatiirtan waxay leeyihin xilkooda iyo see loo maamulaa dhammaanna waxay isugu imaanaysaa sidee baan damaanaqaad ugu siinaynaa bulshadayna iyo takhaatiirtaasi aan u samayn xoogaa aan kaftan ku daro takhaatiirta waxaad moodaa marar qaarkood inay takhaatiir madax bannaan iyo dadka madax bannaan dastuurka waa ogol yahay waxaa waaye dastuurka haddaad fiirisaan qodob baa jiro oo waxbarashada tan sare iyo caafimaadka iyo waxaasoo dhanba wax gaara waa la suubin karaa xukuumaddii ama dowladda aan idhaahno maadaama 22 sano ay ka maqnayd dalka
waxaa buuxiyey dad kale oo muwaadiniina buuxiyey برايفت وأقولها وحياة قارة ليه ولا أقولها لكن مدة كويس إنه حيتها ست مانقات لوها لو يعني مواطن كيوها لو يا به الدستور هو ضمان قاضي حكومة دي وأين يسميها حتى ميلو العقل الآن لو عظمته الوتر ميلو عبارة العقل الآن لو ترى إن يسميها على المرمان أنت تبرت هذا لا يكتب رئيس ما هدي واحد بينها حتى كلهم كي كنترولي كرتا كلهم كي دجين كرتا جامعات دي واحد كسب بحين عن ساعة دقيقين ملو اعتراف سنة لديك ولا ترتري كرا هذا كنتم جامعة ميشا كفورا واحد صعدان إيه ميلا يوجدان ملك سائل مركا كفتن كي واحد ويان ما أنت حتى تخترت هاي وزارة أجوبته وحاول حلدمان هيست أقرأ كويسة أنا كحلدمان قاركوت دوري لواتن وزير واي قلاي كجران أنت مش كجران وزير هاني واحد لا أنا كنا هو رمانا آخر تاكل حلدمان وصل معنا وكيل الشفاء سمينا حلدمان وصل نقنا مركو حديث نختار للتاي كودا إيش أفكارته وسكتي عن إحنا وكان أنا كان نور فائدة إذا كنا مارتها احترام النحيين marka hadalkayaan idinku badin waxaan soo jeedinaa si arrintaani maaragta ay meel fiican noogu marto oo annagana sharci wanaagsan aan u helno horta bahalka matrix lagu sameeyo qodob walba hal khaanad la geliyo qodob walba hal khaanad la geliyo haddii loo baahdo xogeynteeda cabdiqaadir ma jooga cabdiqaadir haloo dhiibo asaga yaqaan hal matrix hayda sameeyo qodobka koowaad laga bilaabo qodobka koowaad saan u qoran yahay siiqadiisa sax miyaa kansaas miyaa kaasaas miyaa iyo sababta loo bedelay qodob labaad saddexaad waa konton iyo dhowr qodob weyn qodob insaan la yeelo waayo hadda annagu waxaan noqonay laba aqal ayaanu noqonay aqalka sare markaan u gudbinayno haddii aan hal qodob oo kooma laga bedelay waa sheegnaa koomahaasaa laga bedelay sababta looga bedelay waa sidaas igara lahaw hadda amarkayga qaado waxa weeyaan matriiskaasaa la sameynaa guddi hoosaad sameysoo bixiya takhaatiirta wasaaradda guddiga ururka bulshada iyo loo qofooda guddiga ku saabsan hal usbuucaan idin siina bahashaa kasoo baaraandega noo keena intaa isugu imaan derbigaasaan ku qabanaynaa iyadoo wax lagu heshiiyey maxaa ka qabtaa qodob ha loo safiya hataa haddii qodob cusub ay kusoo heshaan noo keena ha ka xishoonina laakiin wax aad isku waafaqsan tihiin oo ummadda u roon noo keena guddigan mas-uuliyaddiisa waxa weeyaan markii baarlamaanka la tago dadkii difaaci lahaa waayo sharciga wasaaradda wuu ka wareegay waxay difaaci karaan hala keeno marka akhrin labaad haddiiba ay noqoto iyo akhrin saddexaad looyarkiina waa guddigana difaacaya golaha meeshaas ka doodaya asaga jawaabta bixinaya idinka haddii wax farsamo la idinka baahdan baa wasaaradda loo yeeraya waxaas farsamo ahaan ka shaq la yidhahda laakiin dadkii difaaci lahaa waa guddiga marka guddiga hala siiyo hubkii meesha ula tegi lahaa marka tirada haddaan ku heshino meel qofoodoo dhakhtara kasoo waa guddi hoosaad ee farsamo dhowr qofoodoo guddiga ka mid ah dhowr qofoodoo ka mid ah takhaatiirta dhowr qofoo ka mid ah haddii lagu reeyay wasaaradda dhowr qofoodoo ka mid ah xubnaha ururada bulshada oo meesha rayadka ah haddii loo baahdo loo yaro oo marata qaabka oo luqada oo qaanuuniga ah idinka kaalmaysa waxaa la isku daro tiro igu sheega marka proposal laba saddex هيا تخاتيري waxaa idin siinaa 1 minute shorable meel qof aragtaa wasaaradda meel qof aad soo jeedinaysaa saddex waaye haya wasaaradda waxay la soo baxday saddex qof takhaatiirta imsaa la soo baxaysaan hal usbuuc oo waxaan rabaa xoog loo shaqeeyo habeenay maalin waa la qoraa markay sheegaan la qoraa ما شاء الله أفرت هلا أقول هذا ما له عذينا كل عقل اللي القراية استوجع ترتيبنا وشك سأرى لها هلا قراية أولين مقعد اللي يري تخاتيرته وحاول أنت إذا كفاية إنه حتى الشنك هنا مشكلة ما له عذينا وعقلي الله بعيد مش wasaaradda adiga magacyadooda yeeri dhakhaatiirta magacyada yeeriya
nidaam raalli ahaado magacyada dhakhaatiirta ii sheega xal qoraya qora magacyada yeeri waa inaad yeerisaan waayo aan dhegaysano raalli ahaado xildhibaan raalli ahaado nidaam دكتورنا وحواي دكتور محمد حسين بوذاي كو دكتور عاشا عمر أحمد لبو وتغاتير واي تغاتير تكروا حواي دكتور عمر الشيخ محمود عدو دكتور ياسين أحمد نور دكتور محمد باهر ما شاء الله شلون واي اوكي شنتا كلو وريك وزارة هذه الترتيب ييري وزارة عبد القادر وهلية أفرح دكتور عبد الرزاق يوسف أحمد يا محمد عبد القادر عدو ورد برشاد مقاعد هذا الشيء هاي يا قرآن warqadii u qor aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya dhammaan wasaaradda iyo takhaatiirta sida fiican iyo ururada bulshadaba sida wanaagsan iyo dhagafuudeedka aad noogu timaadeen iyo sida oo miinadyahanimada aad uga qayb gasheen dooda maanta waana aad baan idinkaga faa'iidaysanay aaraadiina oo farsamadan caafimaadka ku saabsan oo annagana aan raadinayno waa ku mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in guddiyadiina maanta bisha meeqole labamo maanta bisha tobanka aan idhaahno bisha tobankeeda waa inaad marataa bahal oo aad ka soo wada shaqayseen aad raalli ka wada tihiin xataa haddaad iskhilaafteen meesha isku khilaafteen aad noo keenaysaan mushkilad maaha laakiin wada shaqayntaa muhiim ah bisha tobankeeda waxaan guddiga ka doonayaa in marataa dhammaanteen inta hadda maanta joogto inaan isku nimaado derbigaasaan ku qabsanaynaa si aan u soconno horey ugu sii soconno aan magaciisa maadaama ay duhur joogto waxaan ilaahay ka baryay subxaana wa tacaala marka aad soo noqonaysaan xoogaa markaa wada shaqaysa in kiimikadiina isku dhalaashaan rajaynaya insha allah shirku waa noo xidhay